السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرويني مدنيال كسر دوادا عدا سنان تي في أو عاوة أي مرتين نوجيهين أفر شخصي أدول الجرنيسين. برنامج كان عاوة عن قبنا إنه عاوة إسبيسيالة وأن أقوم قاعد الري باردون سيتي. باردون سيتي وحن أقوم قاعد الري وحيلا حيدا حسوقا يودباتنا فلحن كدعدي. إيميكا كدعدي إنتان لقى جوجه ضباط سيتي كدعدي أنكو وموجينينا تاجرو نحرك باردون وهدي توصل معنا وكوجا في وحال قاضو وما قلنتي ويا ستة فقيتين إن شاء الله أرنتا وحن سؤالها يجوابها أنكو كوي درسين برنامج كان إياد قبل جندوتين تا talabaad waxaan anaku sinaan TV hadaan nahay waxa markastaba naga go'an inaan wixii xasuuq dhaca ee bilaadan ee maaragtay shiciba lagu laayo inaan anaku cambaareyno sida imika city oo kale taa ka dhacday garbaciisa waan cambaareynayna waxaan maaragtay adduweynaha ugu qayleynaa oo leenahay dadka ha loo gargaaro sidoo kale wixii xasuuq ka dhaca amba Djibouti amba Soomaalida qabsaday kuna waan cambaareynaa sidii arxiba le 18 December taasoo kale kana cambaareyna buldaqo waan cambaareyna wixii dad maatiya la laayo Sitnaan TV waxay ka tahay inay ka gaban ay cambaareyso ay waliba dadkana ay maaragtay waxay ka codsanaysaa inay waqtigooda inay hadlaan ay wixii dhibaato gaadhay ay sheegtaan waan siin doonaa tasaddeq inta aan barnaamij soo gelin waxaan doonayaa inaan ka xunnahay Sinaan TV hadaan nahay sida ay gaas khusuusta Djibouti arinta ay حقوقي أي وقادن وين وليها هذا كمان مدهرادين كمان هذا ست دولات ست عبارات ست شخصي وكمان هذا وكمان عمبارين وليه حتى باقي كسب أجاسك حتى ما أي قدرين أو الواحد جوابه عاد أي كبحيان مجرو كلك أنت طبعا سنان تي في مارتاي عن جوان كي عن نقول شجعنا يبوز حاجة كجوكتو إيمي كانوا واحد جعلها هي إن إنما أفيتيجا الرجال ما أنت أرنتن نقل قيب جلايا إن نيسو بندقو وفارح عتة رابل ودول جرنيسين ونين أقوى ضد كان وحوي في تيميا وعلمي ميجل وبرزان إنيو برزان دلينيو ديمقراطيك جيبوسيان وسهل موسى أو كهلا براه بالشدة أو هذلن هذلا على العدا أو ضد كمان كوف أي كحريين waxaan leeyahay ku soo dhawaada Sinaan TV dadkana nidaawana in jacayl nagu xidhna salaama farax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنان تي في يكو حرنياشا ان ضافها دويدا كلا جوغا وان السلامية ان وحن سلامية كلا بهدا ان باهنت سنان تي في تكنيكا يو سمتر سعيد عثمان اون لاهي وانكو سلامي وحن كلا سلامية علمي سهل وأهرق أدياد وغموقدا دأدو ذا كدح موقدا دأدا مسنة بدن ركدح موقدا وانا بلينا ان أذريال ان وانا دوح سهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو سهل موسى حسنة إن شعب وينها دقيسان يارتو وحكم هاتسن سنان تي في
gogoshan inoo fadhisay dabadeed waxaan salaamayaa ogaaskeena Abba Mustafa shicibka reer Djibouti صح iyo islaan oo dhan waxaa arrintan daawanaya علمي ما شاء الله دمانتين هورتا وين ودا سلامي سعيد ولا لون سلامي عدير فرح وتي اد بان سلامي سهل ولا اد بان سلامي بلشده نوغو خيرنا ودن اد بان سلامي magacaygu waa cilmi migil waa beri waana dhowahay sheekh saciid hadalkan ku soo celinay thank you very much علمي قل أد نينا كهلا تاي سؤاله هني بان إسكاب بلابننا إن شاء الله سؤال شو جوه الرسالة سام بودعي وحنا جعلها إن فارح وتأن فيديو فارحوا برنامج عاوة سيتي يصير عن كيالي وحوي وحن ربا إنا كويديو إلى إمك مدة كنت صنعه كدو سيتي halka ay joogtay dadkii ku noolaa ee dadkii ku deganaa uu Ilaahay siiyay ilaa iyo maanta kolka la eego khasaaro weyn ayaa la oran karaa khasaaraha oo noqon kara dirdhawe waad garanaysaa siday ahayd iyo cidda lahayd maanta duulkii lahaa cidda dirdhawe halka ay joogaan iyo halka laga joogo waad garan waa kow rag wixii aqoonyahan ahaa ee indheergarad ahaa ee halka ciisuu lahaa halkaaba iyakuna ay joogaan iyakuna maanta waxay ku dambeeyeen waad garan waliba waxaad u dheer khasaaraha kale waa la qaybiyo sidii nidaamkii dawliga federaalku gobolka dadka qurahaatay gobolku u qaybiyay waa city oo saddex loo qaybiyay dhibaatada inta leeg ee city ku dhacday khasaaraha waxaan jecelahay inaad wax nooga sheegto Djibouti waa dawlad maxaan odhan karnaa intay ku leedahay mas'uuliyad oo kaaga baxay farax السلام عليكم مر لبعض dhibaatooyinka city iyo Djibouti dhex yaala amba waxa isku taraan hadana ka sheekaysan dhahno waxaan u baahanay muddo dheer inaan halkan fadhino oo maalmo iyo xitaabeen bilo lagu soo koobi karo and city intaan su'aashaada ka jawaabin inkoo iga raali ah and afarle yaroo gaaban aan ku salaamo city iyo lase dadka kaleete ay city wax ka tabanayso city ay samaanada ku jira socodka taariikhda sanad waliba sheekiyo ku sifow tusaale subag iyo dhaydii sanadaha dhaqaaleed city ay adiibtay suntii aad ka dhaxashaan city kuu sawirayaa sir baan kuu warramayaa sadrigiyo laabtiyo qalbigaad ku sugan tahay saldhigayga baa tahay city ay sideedaba saddex baad u qalan tahay saaxiibul naarkii seeftii tigraygu ku sarsaray sankaarka saaqidkaa naxaynoo sinjigii iyo luuqiyo sumadaada haystaa surgun kugu adkeeyo kuu diiday socodko sankaarkii iyo kuruska subagii ka daatay sahay loogu deeqay city haddana ka sheekayso dhahno waxyaabaha ku dhacay kontonkii sano ugu dambeeyey iyo waxa ka dhexeeya Djibouti markaan leenahay Djibouti horta qabiil Djibouti la dhaha ma jiro dad laga dhaadhiciyaa jirta qabiil Djibouti la dhaha ma jiro laakiin qabiil Djibouti la dhaha ma jiro Djibouti waa meel lagu wada nool yahay dad baa ku wada nool qowmiyado iyo qabiilada ku nool ciisaha reer Djibouti iyo ciisaha city wixii ka dhexeeyay haddaan kontonkii sano soo dhaafay halkay city gaashay haddana ka sheekaysano waqti badan baa naga qaadanaysaa haddaan qodobadii u waaweynaa soo koobno halgankii gobonnimadoonka ay galeen dadka reer Djibouti dadka Djibouti degan city qaybtay ka qaadatay dadkii buduryeerka lagu laayay ee gumaysigu ku laayay imisay boqolkiiba ahaayeen reer city dadkii halganka u soo galay ee dagaalkii kolkii gobonnimadoonka la dagaalamayay ee jabhadii la oran jiray xoreynta xeebta Soomaaliyeed loo magaca waqtigii dadku magaca Soomaaliya ay ka socotay Djibouti imisay ahaayeen boqolkiiba imisay ahaayeen reer city
taana waa mid la wada ogyahay oonan dafiri karayn dadkii siliga la waraayay inay reer city u badnaayeen waa la ogyahay gobonnimadii markay dhaatay jabuuti iyo city wax badan bay u qabatay jabuuti laakiin qaar badani ma ogo balse waxaa loogu bedilay city inta jeer ay u gablantay jabuuti lama tirin karo inta jeer ay jabuuti gablantay cityna lama tirin karo oo dad wixii u hadhay ee ka hadhay gacantii dergiga iyo dagaaladii gobonnimadoonka ay soomaalidu ku khasaartay soomaali galbeed dad wixii ka hadhay madaxdii ka hadhay jabuuti bay gacanteeda ku baxeen haddana danta laga leeyahay annagu ma garan weli hadda haddii iminka city wax ku dhacaan meelaha kale waa loo gurmadaa laakiin city waa taabuu kuwii ka yimidana uma gurmadaan oo ma xasuustaan kuwa ay isku jisiga yihiin oo haddeero city caawinaysana uma gurmadaan maanta waxaan arkaya dad amxaaro oo 30 qof oo la dilay in laga hadlayay oo la leeyahay waa ka xunay dadka laakiin 600 bay taagan tahay city dhimashadu dhanka reer city dhanka kalena ka sii badan labaduba jabuuti bay ku leeyihiin laakiin lagama hadlo waxay ninkan miidaynayaa laakiin waxaa la ogyahay city inay saynada dhaqaalaha ugu badan ee dalka jabuuti u leeyahay inay city tahay inay subaga city keento jabuutina ay sun u dirta city ilaa intay sii soconaysaa taasi ilaa inta la sii dul qaadan karaa biyuhu waxay ka yimaadeen city korontadu city bay ka yimaadiin waxay jabuuti intoo dhan city bay ka yimaadiin ariga iyo subagu city bay ka yimaadiin halyeeyada kursiga noorida la dhaaro city bay ka yimaadiin laakiin intay sii soconaysaa taasi oo cityna sun helaysaa waxay subag iyo ay keento dhaqaale waan ka baxay ما سنتها فرح waxaan cilmi ayaan jecelahay inaan su'aasha aan weydiiyeysna cilmiyow sida uu farax sheegayo haliye iyo waxay city lahayd maanta way naga hooseeyaan bidoodii waxa taasoo kale dabargo'aasa lagu hayo city ma is odhan karaysaa jabuuti laftigeega ilaa calankii aan qaadanay wixii qoomiyadda u hadli lahaa ee soomaalida ciisaha u hadli lahaa maanta madaxa ayaa laga laayay amba qof ciise oo hadli karaya ma jiro ma odhan karaysaa maanta xitaa waxaa jiri jiray jabuuti berigii xitaa xasan guweed ba ahaatee dixda xumbuli odayaal la odhan jiray odayaashii maanta odayaashii dixdii fadhiyaanoo xasan guweed bay la leeyihiin ballan oo la shirayaanoo waxbay weydiinayaan يعني waxaas waxay ahayd fiile wadanka nin baa xukuma laakiin rag baa waxay ahayd maaragtay actor kale oo wax wadanka in la leeyahay oo wadanka iyo muuqan jirtay wixii in la baabi'iyay yaan u arkaa fikradda meela qabtaa ma saxba waa mahadsan tahay Saciid walaal waxa weeyaan horta kulley adeer Faarax Ute waa nin taariikhdii gacanta ku haya isag yarag badan oo odayaal waaweyn oo ma daragtaanay taariikhda haya waxaan horta aan codsan lahayn maadaama anagu dhalinyartii ciise nahay ama dhalinyartii baadilkii maanta wax garadka aan nahay odayaasha maanta taariikhda haya inay wax qoraal inay ka tagaan dadkeenii hore wuxuu taariikhdu ay ku baaday waxa weeye buusha loogay dadku waxay sameyn jireen in afka laga sheego qofka kalena uu dhaxlo wixii sidaa ku qaato maanta waxaa yimiday dad intiiba maad aragtaanay buusha looqeygiiba aan fursad u helinba oo maad aragtaanay aanan garanayn halku ka yimiday halka uu ku socdo waa dhalinyarta maanta ciise dhibaatada ugu weyn haysta taas qofku markuuba garanaynba halka uu ka yimiday ma garan karo halka ku socdo ciise marka la yiraahdana waan ognahay waa xeer weeyaan ciisana maad aragtaanay waxa la baabiyay waa dhaqankiisii xeerkiisii maamaha gaaleed baa tiraahdaa Faransiis aad tiraahdaa dad marka aad doonaysid inaad horta baabisid kaga horeey inaad baabisid storygooga iyo taariikhdoodii inaad baabisid kaga horeey waata ciise ku dhacday waxa la baabiyay taariikhdeenii jiritaankeenii iyo xeerkeenii iyo waa maad aragtaanay wixii aan dhaxal u lahayn oo dhan baa la baabiyay anigu maad aragtaanay in yar markaan taariikhda ka daba tagay kagamay horeeyin ragga madaxda Jabuuti ka ah in ciise baabiis ragga kami horeey maalintan caalanka qaadanay ilaa maanta baaba ciisu markaas buu bilaamay ilaa maantana uu socdaa jeelafti dadka layswan ognahay city cidda maad aragtaanay dhiigeega maalata ee dhiigeega cabtoon ognahay marka waxa weeyaan
siciidow anoon hadalkaanin bay leexinayn hadalkaan maad aragtaan ku dheeraanayn hadal murti waxa weeyaan waa halkii islaantii habareertay nimcad jaamici sun buu ku laaqayaa sirtaaduu bixinayaa bay noqotay jabuuti marka siciidow intaaban hadalka kusoo gunaanada insha allah merci beaucoup sahal yaa hadda idin wareegaysa su-aashaan oo dhibi sahal hore waad uga dhawaajisay waan kuu daawaday cajiidahaaga oo in dad badan ay ku daawadaan jabuuti nabaddeeda markay qirqir gasho reer city baa u soo gurmada ayaa tiri waana siday tahay waana run waxaan doonayaa inaan ku fahansiiye maanta dadka city lagu gumaadayo dadka reer jabuutiya ehelkoodii baa jabuuti dega waxaan ku siinayaa taariikho berigii siyaad bar qowmiyadda isaa qaleynayay waa dad walaalihiin annagu waxaan u qaban karinay maaragtay ciise way u qabteen laakiin halkaa wixii ka dhaca soomaaliya amba dhibaato ku dhaca amba duufaan ha dhacdo amba dhibaato ha dhacdo wixii kaalambite ee dhacda jabuuti toos baa looga gurmadaa weliba kuwa maaragtay dadka isaaqi xaaga ku nool yaa cunto raashinkooga halkaa loo dhex mariyaa ciise oo gaajaysan hadday halkaa dhibaato ku dhacdo weliba adeecadaha lasoo dhigaa waa lagu faanaa waxaan ku weydiinayaa isaaqii jabuuti markii way u gurmadeen oo lacag bay iska gureen halganka way kula jireen oo wala dagaalamayeen oo lacagta jabuuti baa la sii jiray oo diri jiray waan ogeyn indhaheedna weli way qarsanayn waxaan ku weydiinayaa haddaba jabuuti maanta itaal la'aan ma hayso komersaan la'aan ma hayo nin lacag dad maalqabeenna ma la'a reer jabuuti maanta wax kastay karayaan hadday dowladdii ka gaabisay waayo dadkii reer jabuuti ee dadka waalka la ahaa iyay ku haleynayaan sahal waan kaga baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkay faarax u waan salaamayaa walaalkay inanka kale magaciisa uu dhaafay siciid waan ku salaamayaa cilmi waan ku salaamayaa ummadana daawanaysana waan salaamayaa reer jabuutiya reer soomaaliya ee fahmaya af soomaaliga intaanan jawaabtaada aanan ka jawaabin waxaan ku yar noqonayaa walaalkay faarax xabaddu ka dhawaajiyey iyo sida loo dhigay marka la leeyahay reer jabuuti intaanan sawaashaada aan ugu noqon sax city waxay jabuuti u qabatay waa la garanayaa waagii la dagaalamayay iyo wixii buduryeer ku dhintay waa la garanayaa buu yidhi city bay kasoo jeedaan ingiriisku wuxuu idhahdaa is a matter of debate waa dood meesha noo taalla anu waxaan aaminsanahay wixii dhintay meesha ku dhintay in reer jabuuti u badnaayeen waqtiga gaalka lala dagaalamayena waxay ahayd waqti isticmaal gaala la dagaalamayay ma kala lahayn ciisuhu city Soomaaliya iyo Djibouti labada 20 dixoodba way dagaalamayeen oo gaal baa iska kicinayay oo wali markaa ma kala qaybtamin markaa mid baan ahayn ogaas mid aan lahayn meel quran ka wada jeednay taa meesha ku tirso ku laba markii calanka la qaatay waa inaan laba la kala saaraa shicibka reer Djibouti iyo siyaasadda waan ognahay halkay maanta joogto shicibka reer Djiboutina dee inuu adig ku soo gurmada dhaafe isaga gurmadu baahan muxuu gurmadu u baahan yahay shicibka reer Djibouti hadday waliba ciise aan ka hadlo madax banaani siyaasadeed male adiguna waa ogtahay aniguna waa ogahay nin aan madax banaani siyaasadeed lahayna dee qof kale wax ma u qaban karaa noosiyonka city ma ku jirtaa horta waa qodobka meel isla dhiganayna waxaad soo qaadatay isaaqa iyo waagii SNMta nin kastaba devoir buu leeyahay nin kastaba origin buu ka soo jeedaa waa rag libaaxiya wixii devoir kooga ah way qabtaan sans excuse laakiin inaka devoir bay noo yaala devoirkay noo yaala waxa baabiiyay 77kii markaan ka qaadanay waxa la dhisaa waxa la dhahdaa patrie djiboutiana yan dhisaynaa bale dhalinyaradii waxa lagu abaabiyay ilmaha reer Djibouti calanka maalintan qaadanay waa 43 jir 6 jir buu iskool Faransiis ku tagay istuwarka Faransiiska loogu dhigaa iskoolka waxaanaad ka hadlaysid xeeriyo war qaar baa Maxamuud Xarbi garanay aabayaasheen bana ka dhagtan ugu qabanay ninka baa jiray marka xaaladdu sidaa ma xaaladdu waxa weeye maturité siyaasadeed weli maanu gaarin
qaangaar siyaasadeed ciisu ma garin laba nin oo saaxiibo ah oo laba fikradood kala duwan haysta ayay ka beeraxmaysaa ciisanimadii siyaasaddii waa halkeedii maalintii ugu dhaweedan hadlayay waxaan idhi war mucaarad iyo muxaafidoo maanta hubka naga dhiga maanta maa xisaabti maanta waxayna sugayeen eg maanta rag bayna sugaya meel ku dhintay oo qaawan marka intaan qof kale eegayno waxa weeyaan horta inaan inaku isa saxno dhibaatada city ka taagan iyo ta Soomaaliya ka taagan waa ta Djibouti ka taagan nin reer Djibouti oo city maanta nacayay waa nin aanan lahayn aragtidiisu ay soo kooban tahay ayna meel dheer arkayn waxa weeye war haddii aanad ku caawinayn ciisanimada waa inaad ku caawisaa muslimnimo walaaltinimo jaarnimo sidaan ummadda kale ugu qaylayno halka aan maanta dhibaatadeenu ay taalana waxa weeye siyaasigeenu hadduu xamar joogo hadduu Somaliland joogo iyo hadduu Ethiopia joogo mas'uuliyadda isaga saaran maxay tahay yaa ka horeysa shicibka reer Djibouti waxa ugu dambeyseen ku soo xidhayana directeerada ministerada iyo cadka loo qaybiyay dadka reer Djibouti ee afartii dixood ee Djibouti ka soo jeeda iyo dadka loo qaybiyay 8 soo 12 dixood maaha ciiso laba dixood Soomaaliya ku taala 6 Ethiopia ku taala waa 8 Soomaaliya 8 Ethiopia 6 dixood ee Ethiopia iyo labada Soomaaliya waxa loo qaybiyay xildhibaano iyo afarta Djibouti dhexdeeday ku qatan yihiin marka kuraasi loo eego 8 dibadda ka tirsan marka loo eego marka nin lagaga badan yahayba baarlamaanki oo ninkan ugu lacag badan maanta Djibouti uu ka soo jeedo city iska badhaaf Soomaaliya gaaja dishay waaye hadduu ka hadli waayo maxaad ka sugay shicibka reer Djibouti runtii iskuma sheegnaynaada arrintu sidaan moodayna ma c'est encore plus compliqué que ça wana ka baxay hadalka sahal su'aalan kugu cilaado raliya maxaad u malayn waxa halka dhibaatadu ay ka jirto wax jira sheegaysaa waa run laakiin maxaad u malayn waxa u malaynaa waxa weeye in aragtideenu waa san ku sheegay aragtideenu waa meel gaaban aragtideenu waa meel gaaban oo waxaan isku leynaynaa siyaasad waxaan ka tagnay wixii siyaasad ka weynaa example baan ku siinayaa madaxweyne marka la eego wadanka Djibouti la yiraahdo iyo ogaaskeena marka xeer loo eego midkeebaa weyn dul marka loo eego ciisaha Djibouti iyo meeshaan ka degno Soomaaliya iyo Ethiopia midkeebaa weyn labadaas su'aalood markaad ka jawaabtid mas'uuliyadda saaran ninka Soomaaliya jooga iyo ninka Ethiopia jooga maxay tahay isagoo Djibouti koona iska dhiga haddaba aan kaaga jawaabo su'aashaas inuu Soomaaliya isagoo jooga iskooladiisa helo inuu malcaamadiisa helo inuu dhakhtarkiisa helo inuu isku filnaashi gaaro inuuna Djibouti u baahnaan ka Ethiopia sidaas leeg odaygaad cazumto aadan allaalan u malaynaya cimiro dhar iyo caafimaad ilaahay ha siiyo waan dhageystaa markuu hadlayo waagii mingisto meesha laga qaaday ilaa maanta waxaa la ogolaaday in aqaladii dirdaba loo celiyo ciisaha ilaa hadda laguma noqon iyay tahay mas'uuliyadiisu waxaas reer Djibouti ba isoo ninka xeeqa soo jeedo waa maya iyay tahay mas'uuliyadiisu inuu ciyaalka city degan iskooleyna loo dhiso marka reer Djibouti ba mise waa isaga wana mas'uuliyadda la kala qaata haddii la yiraahdo Djibouti baa wax kasta ka aabaa waa khaldannahay de waxa la kala saar laayay xeerku wuxuu dhigay gurmad oo geela intoo laga soo safro Ethiopia laga keeno iyo xeebta la keenay xurunkaabu daaqayay milixdaabu cunayay uu noqonayay ma oranayo war meeshan kana midna laga tago problemkan haysta si encore plus fast que Djibouti mais laakiin laga ma hadlo haddaad ka hadasho ciisaad kala qaadaysaa il faut avoir sa responsabilité waa maxay responsabilitégu ninka Djibouti joogay waa inuu walaalkii caawiyaa Soomaaliya jooga ka Ethiopia jooga laakiin walaalkii hadduu jidaafta soo qaato Djibouti wada yimaado ula Djibouti waxba ima qabanayso kii Djibouti wada gaajoonay muxuu ku qaban waan ka baxdo kee okay sabo waan fahmay waxaan hadalkaaga waan siin doonaa hadalkaaga inaan si fiican meelo badan ku taabanay laakiin inaan saddex arrimood u dhigaan doonaysan inamada kale hadalkan weydiiyo waxaan ku fahmay siyaasadda ninba halkuu joogo siyaasadda iyo horumarkiisa ka galo laakiin waxa naga dhaxeeya oo sare oo qiimo sare oo ka weyn siyaasadda ayaa jira waa tolnimada waa ciisanimada iyo xeerka
سهل هذا الكلام يصير فهمي سوسدا ما صح thank you very much okay waxaan u salaamaya waa Faarax waxa uu ka u soo jeestay Faarax u tarable sahal wuxuu ka dhawaajiyay dhibaatadan aan fahmi laanahay waa wax annaka xageena ka timiday una macnayo si fiican buu u kala dhigay wuxuuna yiri hadalka isaga aan ka buuxsaday ogaaska iyo ciisanimadu ha naga dhaxayso laakiin siyaasadda nimbaalku joogo ka galo nimbaalku joogana dadaalka ka wado taa annaku maxaa noo diiday Faarax horta wax sahal aan ku raacsanahay dadka mas'uuliyadda u jooga city mas'uuliyiintooda inay qaataan waajibkooda waan ku raacsanahay laakiin tan mid baana ku raacsanayno waxaanan isku fahmin baa jirta city lugooyada ay Djibouti ku hayso Djibouti ma odhanaanu ciisaha Djibouti baan odhanaya waayo Djibouti waa dad isku yimiday oo reer Djibouti marka la yiraahdo waxa ku jira Afar baa ku jirta qabiilo kala leh Soomaali kala ku jirta Arab baa ku jirta Suudaan baa ku jirta xitaa Oromo ku jiri karta reer Djibouti marka la yiraahdo ciisaha Djibouti baan odhanayaa ciisaha Djibouti ciisaha Djibouti ee badankooda Itoobiya ka yimid qaar ka yimid city ka yimid waxaan u diiday inay dadkooda labaliidada hadalka iga dhaxgalin سؤال وفق قلنا وصل نقولنا سؤال الدون كل واحد يردد هو يسكن الحال مر مؤمنهان إيمانيتهان بالسبوق المدى والصومالي هذا عبارات كذا الحكومة جيبوتي بقى وقرمتها إسكدا دتك كلا دتك إسكدا دتك إساق جيبوتيان كي إساق مركز ديب تكودرين مسؤولية دولة قاتن ولا لو حرت الشيخ العكتي اللي قلنا جيبوتي بالجورني يقربها حافظها كشقية إبراهيم دار العكتي وذا قادين أو يورونين عندك ما عبسونين جيبوتي واحد الورنا يا إمك هالرئيس عيسى جيبوتي واحد ورنا ورمحدك وقرم لنا يا تاتا وانا قبصنا ياكو قبصنا نيكو قبصنا يواك إيه ولا لك وقرم مني inay taasi jirtaan ni sheegaa la isqabsanaya haddaba xukuumadda Djibouti sahal iyo cilmi iyo dadka dhigaysanayo waxay go'aan ku gaadhay inay ciise iyada hoos jooga maahine uu ciise kala noolaan nin iyada hoos jooga maahine inuu maamul kale ciise ka dhismin qaybintii city ee malasa sanaawi Ismaaciil Umar la galay Ismaaciil Umar baa seexay in city laga dhigo 3 qaybood madaxii in laga gooyo city haddaan qof ka dhigtid madax iyo mijo iyo garbuuleeyahay garba iyo calool buu leeyahay madaxu waa caqliga garbuhu waa difaaca dadka difaaca gacmuhu calooshuna waa meesha kayd ku yaallo in intaa la kala gooyo Ismaaciil Umar raalli buu ka ahaa milasa islaawi heshiis kula galay 790kii heshiisyo dhex maray dowladda Djibouti iyo dowladdii Itoobiya Tigray waxa xukumayeen waxa heshiis lagu gaadhay in ciisaha la kala gooyo maxay sababtu ahayd city markay soo gashay Tigraygu markay soo galeen meesha qura halaag ay kala mutaan baahida lagula dagaalamay dadka kale calcad bay sii taageen way sii celiyeen aqritaankii waa laga taroraaday ay jelaf madaxda Djibouti baa kharajisay intay taasiba dhicin raggii city maamuli lahaa ya haddii deficitka ku dhacay city aan dib ugu noqono wanigi lahaa wax badan waa ni soo koobaya saraakiishii FCS hor socotay ee u saalaha reer Djibouti bay ahaayeen iyo allahay 80% city bay ka tageen si Djibouti u xoreeyaan halkan bay soo galeen siyaad barre intuu xilxidhay waxa ku jiray Maxamed Cuto walaalkay ahaa iyo 13 nin oo ciidamadii saraakiishii Saciid Haymal Mustafa Ali Hurde rag magacooda wada garanaysiin oo aad u badan raggaasi عبد الله أرضي Djibouti حريان بيت دورتين كودادا ديفيسيت كسيتي كودا عيبان كشكينين maxaa city ku dhacay maxay Djibouti city dhibaatada ku samaysay Djibouti wax cuntadan la eegina madaxdii u hadhay intii darbigu dilay maahine intii kalena Djibouti waa wada khaarijisay Axmed Langare 87 kolkay Itoobiya iyo Soomaaliya heshiiyeen Soomaaliya laga soo saaray al Suuxi baan joogaanu askari baa lahaa al Suuxi buu reer ku lahaa Axmed Langare reerkiisa al Suuxi baa ahay iyo diganaayeen inuu yimaado waa loo diiday isaga iyo 4 nin oo kale oo la socoto saraakiishii ay jabadii xoreynta Soomaali galbeeda inay yimaadiin waa loo diiday
mingiis waa u soo diray baabuur waa la qaaday dirna baa la geeyey bacay 3 bilood markuu mingiis baxayna waa la dilay afartiiba waa la dilay wixii dilay weli lama hayo wixii dilay lama hayo cilmi dhaga caleen xaamud sheekh cabdilaahi xaamud sheekh farax boqorre raggii situu talin lahaa jabuuti waxay tidhi aniga ciise waxaan hoos joogin ha dhammaado ha dhinto hargeysay xitaa ka dhacday kuwii somaliland ciise cidkuu qaylaar hargeysa lagu dhexlaayay dowladda jabuuti anu shicib jabuuti ma sheegayo xukuumadda jabuuti way la dagaalantay ciisaha iyada hoosteeda ka baxsan shacabkuna waa complice waa complice weeyaan xumaanta aad aragtiyeed ka haldi wado complice baad ku tahay ninkan aad leedahay itaal male oo ma hadli karo iskuma gurman karo maxaa dulliga dul saaray waxaan aragnay isaaqu dowladdiisiyaad barre ee awoodda intaa lahayd ee ku lahayd jabuuti sirdoonka soomaaliya oo dhan jabuuti buu jooga waagiya sanamta la dagaalamayeen soomaaliya waxay lacag lahayd jabuuti bay keentay rag sidaa loo ilaaliyo ayaa lacagta tolkooda u diraayay gadhbaha diraaya lacagta anagu ma lihin dadka hala dulma ma lihin war dadkii dhulkaa ka yimiday halbowlaha jabuuti nolosha jabuuti halkay ku xidhan tahay siti bay ku xidhan tahay jacabkan qolada kaartalka la dhahay soo jiig kuwaasi lacag bay siiyaan ciidamada tigriga ee bariga etoobiya jooga si ay siti loo dhambeeyo siti loo laayo oo madaxda siti loo gumeeyo iyay lacag ku bixiyaan soo jiig madaxda soo jiigna waxay ka imatay siti bay ka soo jeedaa in la cambaareeyo weeye shicibku haddayna raalli ka ahayn siti lama gumaadeen siti 3 looma qaybiyeen hadduuna ismaaciil cumar milasi sanaawi siti markii la qoracayo lagu qabtay isagoo looga dhaadhiciyey inay ugu badanayso ciisaha kuraas in qoomiyad intii wax iska celinayso dhuu yaray deemeed la hoosgeeyo maamul cafar la hoosgeeyo tigrig hoosgeeyaan intii madax ahayd laga gooyo oromo lagu daro calooshiina lagu daro ds siti sidaa lagu baabi'iyo ismaaciil wuxuu ka ahaa sheer buu ku lahaa qorshaha uu ku jiray kolkaa reer jabuutiyow haddaad idinku jabuutiyaan tihiin qoladiina ciise waxaa loo baahan yahay inaad horta idinku war tidhaahdin baasha sidan kuma soconayso sidan waxay ugu soconayn walaalkaa 3 jeer 2 jeer ba u heelay haddii laga gardaran yahana u heelay oo isgarab taag hadduu gardaran yahana ka qabo dadka waar city 2018 gaajada ka dhacday kama dhicin geeska africa somaliland waa kii loo gurmanayay 100 baabuur baa laga baxshay hargeysa laga baxshay ismaaciil cumar hal gaari uma dirino cuntaa city kursiga uu ku fadhiyana raggii riday ee 219kii uu soo gurmaday isaga soo gureeyay laftarkiisa soo gurmay rag city baa u difaacday kursiga uu yiri afar baa dhulka qaadanaysa kale kolkaas city siday u lisay laguma hambayn city subagii ay keentay sunbaa loogu bedilay jiilkiina dhalinyarta waxaa loo baahan yahay inaad ku baraarujisiin cilmiyow aad ku baraarujisiin dadka war walaalihiin inay xaq nigu leeyihiin 3dii uu isku lahaa dadku 3dii haddii layniga waayo waa khalaas iidheh iga dhow markaas waa ka bax thank you masantahay farax cilmi wargara lahaw gacantaa taagto waan kaa buudsiyey sahal baan sahal hadal walaa baan doonay inaan diyaar ka dhigto waan kugu socday adale su'aasha intaan ku weydiin tii hore gacanta taagtay inaad dabasho oniyo horta waad mahadsantahay Saciid oo kulli barnaamij muhiim ah ayaad furtay inta aan live aan soo arkay barnaamij noocan oo kale ma aragtaan ma arag rumaantii magaca ciisana waa wax laga xishoodo waxay noqotay aad looga xishoodo laga cabsoodo ayay noqotay sahal iyo cutana waa rag aqoonyahan saanu arkayo in wax laga biirsadaa rumaantii nin walba waxa ka buuxa wax badan oo ma aragtaan in la dhageysto oo laga biirsada ay tahay markaan aanu in yar aan hadalka ku noqdo sahal hadalkiisana mid baan ku noqon doonaa cutana ma aragtaan hadalkiisa inuu ku noqon doonaa horta meesha godobta runta laga galay ciisoo dhan meeshuu godobta ka galay waa dhuun yaradii 12 kelin baa leenahay 12 kelin bay ka mid tahay dhuun yar iyo diin waa 2 kelin bay kala tahay dhuun yar iyo diin baa la kala leeyahay 6 kelin ee Ethiopia aan ku leenahay bay ka mid tahay
waxaa ka galay godobtaana waa sideedda marka 12 laga reebo waa 10 kilin ee soo hadhay ayaa godob ka galay meesha ciisoo dhan u gurmatana waa dhuun yar iyo deyn haddii xeebta ay wax نعم ka dhacaan نعم dhuun yar iyo نعم deyn baa gurmata haddii halkan shinilada caloosha wax ka dhacaan dhuun yar iyo deyn baa gurmata haddii ay jabuuti wax ka dhacaan dhuun yar iyo deyn baa gurmata meesha maanta u eeg halkii nebi aadan ilaahay dhagaxii uu dhigay u eeg maantana wax weyn waa dhuun yar iyo deyn ee ilmaha waayey in surwaal uu xidho oo gudhato yaroo cawlan oo googa inta loo xidho bilaa garana dhuun yar iyo deyn bay ka jirtaa hooyada dhalaysa ee lagaga dhalinayo murjiska lagu talo bahalada lagu jawaanka lagu talo jaadko kale lagaga dhaliyana dhuun yar iyo deyn bay ka jirtaa waa maanta waa qarnigii 21 waxaan ku jirno waxa hooyada dhuun yar iyo deyn ay u dhimato ma aragtaanay dhakhtar xumiyo dhalmo xumo ay ku dhimato marka waxa weeyaan meesha nafsiga iyo godobta laga kale waxa kaas marka aan ku soo noqdo adeer wuxuu ka dhawaajay EJLFT iyo Djibouti baa ma aragtaanay godob ka gashay waxa weeyi ragii dadka leynayay anoo magacadooda sheegay ninkii Indiris Umar Geelle loo oranayay EJLFT isaga dhagar weyn ka galay EJLF dadkii kullaayay Ethiopia urur waxa laga dul sameeyay dal la yiraahdo adeer aga garnay si loo laayo ragga urur baa la sameeyay oo parallel oo dal la yiraahdo madaxdii EJLF-tana waxa loo laayay hadday nool yihiin iyo hadday sii noolaan lahaayeen ciisaha Djibouti jooga lama dulmeen sababtaa power buu ciisa ahaa power waxa weey raggaas waxa loo laayay si maanta tan haysata ay u dhacdo ciisana waxa lagala dagaalamaa dhaqaalaha nin wal oo aqli leh oo karti leh oo damiir ciisanimo ku jirto maskaxdana waa laga dilaa dhaqaanahana waa lagala dagaalama waxaan maanta Djibouti ka wada taliya nin reer Djibouti ma jiro Djibouti afar kalin beeleeda ada joog bini joog iyo asa joog iyo jahma garata la yiraahdo afarta kalin nin ka soo jeeda maanta xukuumadda Djibouti kuma dhex jiro calankiina ku yaraan maanta kuma dhex jiraan intii ma aragtaanay dhulka ku dhalatana Ibrahim Xadbi Faarax baa ugu horeeyay 8 bilood calanko aan haysano lagu dilay Paris Baldegraas lagu dilay marka waxa weeyi meesha aan nafsiga ka galnay marka hadalka soo gunaanadu 10 kilinba ay godobta ka gashay waa dhuun yarideen halkaas adeerna markaan hadal yar aan maadartaanay hadalkiisa aan raayo raggii soo gurmaday ee dagaalka soo galay furuudka waxaa jirtay dagaalku markuu dhamaanayay rag badan oo hol laga kixiyo aan structure ahaa oo tajaro lagu leeyay oo shirqool loo xidhay adeer u garanaa taariikhdaas waxa kale oo jirta rag laga kixeeyay ma aragtaanay tajoriya u buqiyo duka laga kixiyay oo lagu laayay xeebta dadkii laayeen adeer uu og yahay kulay umaduna way ogtay intii ogeyn marka waxa weeyeen sartu halkay ka quransan tahay ciiso dhan ha raadiyo ciiso dhanna uu wada dulunsan yahay ka Djibouti jooga kama aragtaanay caloosha jooga iyo ka ma cirifka jooga waxaana dulmaya waa ciise weeyaan marka ninkiisu dilayo looma ooyaan weeyaani halkay sartu ka qurusan tahay iyo halkan ma aragtaan la isku fahminaa la iska haysto iyo hala doono sahal markan arinkiisi aan ku soo yarnoodana iga raal noqda qof ma aragtaan hadda ku dheeraaday sahal ma aragtaan waarino nin walba deegaankiisa inuu ka noqdo wax waa sharaf weeyaan ragga Ethiopia jooga inay ka fikiraan saama qaybsiga dalka Ethiopia ay halkooga ay ma aragtaan ku dadaalaan waa sharaf weey dhalinyarta anu dhowr jeer baan isku leeyahay dhalinyar reer Ethiopia oo si kale fikir kale iga aamin oo ka oran jiray halkan aad ku soo yaacaysin Djibouti waxba ma yaalaan dhul naga khayraad badan naga barwaaqo badan ayaa joogtiin la qaybsada dadka wax la joogtiin oo siyaasadda gala maanta dhalinyarta Ethiopia rag waxa jira doctora haysta rag waxa jira master degree waa diploma dhalinyarteen dadka Ethiopia jooga waxa laga dhaadicinayaa inuu u shaqo doonto Djibouti Ethiopia waxba ku lahayn hadday fahmeen dhalinyartu ay maartaan saama qaybsiga Ethiopia ka dhaxlaan waxaan leenahay dhalinyartaas inay saama qaybsiga dab ay u doontaan ay cadkooga goostaan ay doon yireedeen waa dhulkooga soo xoreeyaan
intaas baan maad aragtaa hadalka kusoo gunaanada iga raali noqda haddaan ku dheer haas hadalka waxaan ku siiyay markaa far taagtaan kaa dulbooday su-aasheeda ayaan doonay inaan ku weydiiyo waan kaa maqlay maxaartay cilmi su-aasha aan doonay inaan ku weydiiyo waxay ahayd hadalkaaga waxaan u fahmay iminka dabargoyntii EJLF wax iska programmiya ayuu ahaa oo maantana in Jabuuti halka ay joogto si loo joojiyaa loogu talagalay waa sax waxaan doonayaa su-aasha aan doonay inaan ku weydiiyo wax weydi maslax ku yaroo heesa ayaa Jabuuti yimide ninkaa nin iska fanaanoo Ethiopian u ahaa waddan ku yimide uu iska heesayey ciiso buldey waxbuu ku hereesay waddankii jaha kaloo galay oo si kale wax loo fahmay dadkii dareen qarsoonaa baa soo baxay ninkii waaba la xidhay siduu ku socdana waa la garanayaa intii laguma joogine barisaaniga waddanka Ismaaciil Cumar uu soo fadhiistay hadal qayaxan buu ku qeexay uu ka jeeday raadioga oo loo wala sacbiyey kolka arrintaa eegto ma odhan kartaa dowladda Jabuuti ciisaha allergic bay ku noqon karaysaa ama dagaal bay ku haysaaba horta inuu Umar Gelle waxa weeye qabyaaladu isagaba ka bilaabmata isagana ku dhamaata marka uu de umada ka leeyahay khad casana halka yaalo oo lama dhaafi iyo markuu leeyahay qabyaaladu iyadaba isagaba ka bilaabmata isagana ku dhamaata maslaxna haduu dalka Jabuuti yimiday waa dhul maad aragtaan uu marti ka ahayn uu mudana ku yahay shalayna mudan uu ka ahaa maanta haduu ku soo noqdana mudan uu ka yahay balse waxa weeyaan waxa meeshii jooga dad aanan intaa ogoleyn magaciisana ogoleyn waxa maad aragtaanay markii horena soo kaxeeyay iyagoon bay ahayd wax markii dambena iri qabyaalad buu keenay iyagoon bay marka politic yar oo waxa uu ahaa Ismaaciil rabay inuu ciyaaro una ciyaaro ku guuleystay marka waxa weeyi kullay annagu waxaan ka yar maad aragtaanay ninkan inuu Umar Gelle wuxuu moodaa ciisuhu inay siyaasadda ka cadilan yihiin isagu ciisaha hoggaanka siyaasadda u hayo laakiin isagu musuqmaasuq iyo munaafaqadu ciisaha dheereeyay ciise qofka musuqmaasuq iyo munaafaqada iyo masiibada yaqaana waxay oran jireen ilma habar masiibaleyda ku dari jiray marka isagu intaabu ciisaha dheeri intiina imika ciise uu soo baranayaayo musuqmaasuq iyo munaafaqada imika inuu la soo bartay uu hadda tolala qabsanaya ayaan u maleeyaa marka inta aan hadalka aan ku joojiyo Saciidow yar baan hadal ka tagay EJLFta waagii ay islaayeen yahadigti waxaan u maleeyaa sagaashanaadkii inay ahayd adeer cunta haduu saxay waxa la keeni jiray Jabuuti dhaawaca la keeni jiray waxaan xasuustaa ana aad baan u daayaraa waagaas in hooyooyinka Jabuuti ay xitaa intay raashinka u kariyaan dhaawaca loo geyn jiray ayaan ogaa wax weeyaan de maanta waxa dhamaatay iisoo sheeg damiirkii baa laga dilay Ciise Jabuuti waa u gurmatay Ciise sitina waa u gurmatay maad aragtaan Ciise waxa laga dilay waxa weeye inaanan isku damqan taana waxa sababaysa in xeerkaagi la baabiyo in dhaqankaagi lagaaga horeeyo in maad aragtaan taariikhdii aan lahayn oo dhanba war dad baana garayn maanta haddaad tiraa Jabuuti cadad joog iyo casad joog iyo bini casad joog dadka wada maqleen cadad joogtu waxa xagga tagtira qof ma garanay war binin joogtu waxa xagga tagtira qof ma garanay jahma garatooda maqleen jahma garato waxa garanayaan inay qabiil tahay waa marka waxa weyn Saciidow raalno qadalkan waa ku dheeraaday arin waa sidaas insha Allah boogto halkay ka boogto kulli dawadeeda waa la heli doonaa thank you sahal raalliga waan ka raagnay ma cajistaan filaya hadalada say u dhacay waad maqlaysay ugu dambeyn waxaan joognaa khad ahmar ayaan joognaa Djibouti khad ahmarka isagoo khad ahmar yiri iyo wasiirka tacliinta kolkii la magacaabay casuumad fagaaro ku qabtay inuu farxo waan ogolahay xitaa qabiilkiisu sheegtay waan ogolahay hawa sheegtaba laakiin maxaa ciisaha loogu diiday hadduu nin wasiir ah uu yiraahdo anoo qabiilka matala
yaa meeshaa jooga meeshaa ma joogi lahaa ma sheegan karo ma sheegan karaa sahalow qad axmarku mar buu shaqeeyaa marna ma shaqeeyo misaaba anigu su-aashaas si kale aan uga jawaabayaa waxyaalo badan oo idhaafin inaan kusoo yar noqdaan rabaa haddii una waqtigu nagu way ku bannaantahay way ku bannaantahay sahal aad way ku bannaantahay marxaba tafadal ku mashquuli maayo yarkaa yare ministerka waa nin geesiya haddaan arka labada gacmood baan ku salaamayaa waa nin xiliyihiisa ku jooga meesha oo raganimo leh marka ma la yaabayo anigu ma la yaabayo isaga kaan la yaabaya waxa weeye ninka isagu isku maqan ka isagu isku maqanna waa wax iska cad taariikhdeenu waa wax soo socotay oo halkan sida waxa weeyaan ninka aanan garanaynin wixiina dhaafay waxa jooga ma ka hadli karo waxa soo socdana ma ka hadli karo waxa weeye ogaas xasan naxariis janna Allah ha siiye oo jannadii Allah ha geeyey maalinta uu dhintay iyo ogaas mustafa imisa u dhaxaysay walaalahayo waxa weeye dhakhtar marka tagto ee doctor u tagto haddaad miiska fadhiisto waan bukaa ka tirahay doctorku de maxaa ku hayu qoran soo ma adeega dhakhtar baa tagtay wadar fadhiisatay wuxuu ku oranayaa maxaa ku haya halkan ay xanuunsan u sexda buug iyo qalin buu qaadanayaa uu qoranayaa waxa uu qortay buu kala soo dhaxbaxayaa meesha wax ka jiraan isu waxa weeyaan waxaan isku dayaynaa qof kale inaan ka raadino dhibaatadeena jirta waa inaan meel u samaynaa daaqad baan u raadinaynaa kulba geed baan qoraynaa reer hebel kani madaxweynaha kani walaalkii hebel baa la dilay waxay oo dhan maaha waxa ugu horeeya waa mas'uuliyaddii labana waan isku laaqnaa ciisanimada iyo xeerka war xeerku waa kii uunaan lahayn ismuu bedelin ciisanimadii ayaa quruniya siyaasad dhex gashay mid yar baan nii sheegaya odaya aan magaalo arag oo baadiye jooga ama Soomaaliya ha noqoto ama Itoobiya ha noqoto Djibouti haba sheegin markay hadalkooda ka bilaabayaan fiidiyoogii u dambeeyay siyaarada sheekha la dhigayaa odayadii lahaa maxay hadalkooda ku bilaabeen annagu siyaaradii baan iskugu nimidnay siyaaraan samaynaynaa qofna uma jeedno hadda baleeg qofna uma jeedno waayo qofkaadan loo jeedin shalay rag baa ka yimiday fiidiyo aan daawanayay ciisaha kaleete oo nalaftiyo ogaadeenkii dhulka ka yimido ogaaska ugu yimideen oo tacsi bixiyaan inay yiraahdeen garab baan nahaynaa waan garab joognaa waa odayo meel kale ka yimid doonaan ciise ahayn hadalkoodu cadaa hadalkii markii loo dhiibo kuwa ciise waxay ka bilaabeen halkii uun waa garab fadhiya annagu qofna uma jeedno marka mas'uuliyaddu iyay saaran tahay xamar 8 baa ugu jira ciisaha kuraas xildhibaano wax hadlayoo soo fadhiista waa xamar iska dhaaf meel kale oo arrintaa ka hadlay ma jiro Somaliland rag baa ku fadhiya xildhibaanaa wax ka hadlay arrintaa ma jiro Djibouti ha sheegin marka arrintan ma arrin Djibouti u kooban baa mise waa arrin annaka oo dhan noo kooban arrin yar baa inii sheegaya arrinta reer Djibouti markaan ku soo noqono marka la leeyahay reer Djibouti baa waxaan reer Djibouti ma reer Djibouti waa ragga Djibouti jooga ee xukuumadda haya ee ka soo jeeda meesha kalmad buu isagu isku jawaabay ninka walaalkaaye Faaraxuto wuxuu yiri gobolka City waxa uu soo gobolka City baa Djibouti u soo gurmatay dagaalkii Freedka ah marka you can have both ways dhinac labada dhinac ma sheegan kartid marka dhinac marka aad u eegtay waxa tiri problemka haysta City haysta waa Djibouti problemka Djibouti haystana waa City baan ku qoranayaa waayo raggii kursiga ku xajiyay raggan ee u yeedheen beenta u sheegeen marka dambe rasaasta ku fureen waa City hadeena u soo gurman reer Djibouti way kici lahaayeen iyaga isdaafici lahaa dhibaatada inna kan haysto waxa weeyaan markay meel ka dhacdo ninka walaalkeena imika aqalkaaga yaa uska ku dhaxdaatay ninka walaalkaaga wuxuu ku yiri kaalay caawi haddaad dugmo u dhiibtid dee isagaas ka fiiqaya laakiin haddaad tagto adigu u fiiqdo dee muxuu noqonayaa inuu adigu kaa sogo inaad wax u fiiqdid soo ma haddaad reer Djibouti eegtid haddaad reer Soomaaliya eegtid iyo haddaad Itoobiya eegtidba ciisuhu wuxuu socdaa liin lagama soo noqdaan oo ninba nin uu farta ku fiiqo waxaad soo qaadatay ninka Isaaqa iyo Isaaqa wuxuu bixinaya 5 president baa isbeddelay ragaasi hore wuxuu ugu samaystay oo raganima 5 madaxweyne ee xabad rasaas dhicin iskuma comparing kartid labada oo ragaay waa rag nin kastaba meesha uu joogo oo dhisto
ii sheeg magaalo dhisan oo inaka ah dawanla kaga qaba ilamaayo Ethiopia iyagu dawlad ma haystaan ogaadeen kuba soo kuwa say jigjigaha gaadhistay ee dhistay in adeer waxa weyn runta iskuma sheeg ka reer Djibouti uu ka seexday meeshiisii ka Soomaaliyana meeshiisii uu ka seexday ka Ethiopia meeshiisii uu ka seexday problemku waa problem aan ka raadin maaha qof kaleete walaa halkan walaa halka urweynaka dhibaatadeeduna waxa weeyaan ninka siyaasiga ay manna matalaynaka inama matalo dawladda uu dhex joogo ma matala xisbiga uu ku jiro uu matala waa waxaan anigu u yiri maalintii aan hadlaayay ay dhacday meeshaasi war siyaasadda inaga laalaabo waan ku wareeraynaa siyaasaddan horta inaga laalaabo meel dhiga xeerkiina yaa ku noqon xeerkiinu muxuu ka qabaa meesha xeerkiinu wuxuu leeyahay meesha gurmad u baahan tahay gurmadkay u baahan tahay maaha gurmad yaro nin kastaba $20 iska soo duubado waxbaan caawino inaa iskool loo dhiso iskoolna loo dhiso ragga ina lagu caawiyo ceelal in maxay heeday energy solar leh bref inay ragga gaadhaan isku filaasho ay cuntadoodana beertaan xoolahooga ilaashadaan meeshooda daafacdaan meeshooda ay nabad ku ahaadaan ciiso oo dhan problemkiisa haddii meel qura la isku keeno tan hagaajin la yiraahdo waa khaldanna badhaadhaha waa in la kala qaybiyo haddii xabad quranto kuwa kale qurminaysa war maanta Djibouti haddii baabaado ciisaha meeshu iska dhaaf halkeed u baxsanay inaan dhisana been inagu hayn meelaha kale ma jirto لو يعداد كتلودا تاكس با laga qaada meeshan arkayno ma aha wuxuu problemku c'est plus large et plus complexe ki wax yar baan ku meeraysanayna meeshu way ka weyntaa waxaas wana ka baxay dalka mid yar baan ku daraya mid yar baan ku daraya ku darso waliba reer Djibouti sawa muddo yaa ka sokaysa maalintii dawladda Siyaad Barre ay dhacday magaalada Muqdisho aan ku soo qaadanaya example meeshan rompuanga ee loo yaqaano gawaarida inay kala weeciso ee xamar ku taala ee faraskii sayidku ku taswiiran yahay ordoo joogso oo quruxda ka muuqata iyo sida loo ranjiyay eeg iyo xawataaki iyo wixii waa meesha uu dagaal ka socdo 43 sanadood iyaan gobonimo haysanaa محمود حربي مجلس ماشي وياهي أرضه إيج إسكول كحمر لوجد السياج ناديجا لوجد السياج مصر وعمل لغو كاتش أوروب كمر كودو كابينة قد بدأ صدر وان كيد التاريخ ذا جاي هل كأكويا لورت إيج لا شاكيتي كموس بس وامم ما أرجنو إلى واحد عن دكتور فرحات جيسي فرحات أو حريج جبيه أو عبد الله بوشيري تاريخي صحيح قرآن تاريخ مكو يالا مايا حسن ربلا أو روحاني رير جيبوتي رير إثيوبيا رير صوماليا ما هو بروبلم إنك أو استركتورية ونن لهين استركتوراسيون كلا قوان حدود كنا دح مري ركبوا دبيا هديت كتير ور حدود بين دح مري ديدت كويس بدلاني حير كنا أنا هيصنو حدود كنا ريسبكتينو إنكنا اندبندون ميل كستو أون جوجنا هيلانو سو حير كل بيت من دي حد نقول سمي نكهي دباتا أي هيستنها أو جرومنو لبيه طبعا كدي حود أو ما أنت دي كستبا أي جيل يا أدلة هاي أي تكلوا بهنين مين قروح بنين ما يم قروح بنو نكهي كهلنا وأنا نعيسها جوجوينية حقا هسكو الشغل نكهي كهلا وأنا نعيسوق القيبنا يا Merci beaucoup. Sal, هذا السؤال بندوينا كوعي سؤال إسكير مهمة أو إسكير ذي. سو شكتي إن دبعتدو أي عيسى يسوع عيه. سؤال أن كويديني واحد هاي. ما ليس سياسة أم بهبدقن كعيسى وتشدان إثيوبيا إن ذا بنايين أو جيبوتي أي سياسة فرها إثيوبيا كل جرين وليو قيبت عيسى ما مسنت محايد سال هذا الهدف من يقول علي سانو فهمان كل شيء عيسى إثيوبيا سياسة دولة جيبوتي بقى كل حجرته الله قيس مياد وجده صح ما يكبر بنانته مو بنايين اوكي
anuu waxaan kugu jawaabayaa maxaa ku qasbay inayna ka madax bannaan mas-uuliyaddu iyay saaran tahay mayna jabuuti saaran tahay mise iyagu musuq maasuq ku dhex jira example baan ku siinayaa meeshan iminka garbaciise dadka lagu laayay markii la saxeexayay hadalkayga si fiican u faham su'aashadan ku siinayaa markii la saxeexayay inaate federalism marka la dhisay nin kastaba meeshiisa loo ogolaa dowladdan gobolka city dowladda Ethiopia oo iska jirto oo uu haysto Meles oo in badan jirta ayaa la soo qaaday meeshan la saxeexay Soomaa saxeexa markii la saxeexay odayadii baadiyihii deganaa ee meesha deganaa ee gobolka deganaa raggii saxeexay ee iyaga matalay ee ciisanimo ku matalay gobolka ma ku dhasheen kuma dhalan odayada ma la tashadeen lama tashan dhibaatada in haysata waxa weeyaan waa mas'uuliyadda marka aan kula ahay haddii odayada mas'uul ay ka ahaan lahayn meeshay degan yihiin dhibaatadan ma timaadeen raggii saxeexay maanta way nool yihiin ciise ku dhex jiraan nin kastaba ciisaha meesha uu kaga jiro reerkiisa ayaa dhabarka gashaday 1200 oo qof oo dhimashii iyo dhaawac isku jira ayaa dhimatay raggii intoo la soo qabtay xeerka ciisaha ma laga maray ma la deldelay in adeer been baan isku sheegaynaa ciisanimada dhexdiisaan been isku sheegaynaa markuu nin reereed uu ciisaha godob ka galo reerkiisa dhabarka gashanaya c'est hypocrisie il faut se dire la vérité wayna ciisanimada uu hal xariistee geesigii ina cali fursheed wayna ciisanimada hoos loo qoolaaliyaa meel kale problem kuma imanayo wali waxaan ku soconaa un halkan anaga wardi haddii aad ogaatay kol meesha laga rabushaayo miyaad ka kaaftoomi karin oo tala ka qaadan karin haddaan ogaay maanta kadinkayga markaan ka baxayo litriaan ku joogsanayo cisho kasta oo isray da waan iska qaaday litri baa yaallo un odhanayo problemku waa litrika ma aha litrku problemku waa inaan iska qaadaa waana ka baxa dalka thank you very much ma santahay sahal farax raalli ha waan ka hadalka waan ka ragay waxaan farax kurin lahaa dhibaatadani ilaa 3 sano ilaa soo laabantaa waa city horta mid dadkan daawanaya waxaan uga baxnay waxaan ka curdaan lahay maanta city ciisa waxaan u hadlay maanta arinta aan soo galay ciisu waa dadkan dhibaatada ku dhacday city kolka haddii qabiilka dhibaato ku dhacdo Sinaan TV uu furan yahay inuu si furan uga sheego maaragtay aan uga sheekeysano qabiilku xishood male waana qabiilka dhibaatadu ay gaadhay la sii ogaa oo soo laabantay kolka inaan ogaano si ciisa maxaa ka qaldan weeyaan arrinkaygu waxaan u soo qaadanaysaa maaragtay missionkan u soo waxaynay arrintan farax waxaan jecelahay dhan kasta waan ka egnay waxaan jecelahay inaad noo sheegtid haddaba city qoolkan iyo dhibaatadan haysatay dhinacay doontaa ka timaado laakiin ilaa goormay sidan ku jiri maxaase la gudboon inay yeelaan kolley hadallo badan buu sahal sheegay qaar aan ku raacsanay qaar aan ku raacsanaynba hadalkii aan ku raacsanayn haddaan ku noqonno kama baxayna caawo dhan horaan uga soconnaba inta badan waan isku raacsannahay akhirtaanka meel baa isla timaadeen hadday dhibaatadu xaggaa jirto maan ka tag maan iska qabanna buuli kelmadda waan ka qaatay sacad ukaad hadalkaa iga halaabay haddaan ku dheeraaday jooji laakiin horta city waxaan ka hadlayno waa city reer jabuutigan uu saal sheegaya waxaan jeclaan lahaa inuu reer jabuuti waa dad badan oo qowmiyado badan oo qabiilo badan leh ciisaha jabuuti inuu idhaahdo yaan jeclaan lahaa oo reer jabuuti markii la idhaahdo waxaa soo galaya afar baa soo galaysa isaaq baa soo galaya cid walbaa soo galaysa tan uu leeyahay wasiirka qabiilka sheegtay reerkiisa sheegtay maanta haddaan arkaanbaba aad baan u hambalyeyn lahaa raganimo muujiyey dameerahan foorara maaha waa dameero kuwan annaka namateli waa lo caws daaqda oo jeebkooga u yaarsada mushkiladda weyn ee jirta waxay tahay jabuuti city horta an waxaan u qabaa inay yihiin laba dal laakiin dad ku dhahatay waa ciisaha jabuuti markaa sheegayo iyo ciisaha city haddii la yidhaahdo xad baa noo dhexeeya waxay noqonaysaa in xeerkii ciisaha dib loogu naqdo su-aalow halkaa boontiga waan kaa saxayaa oo dhulka waan kala leenahay haddii la yidhaahdo mas-uuliyaddii ninba meeshiisa inuu joogo horta tani soo qaxa dadku ay ka qaxayaan ininka dadkii wax ku bartay dirdhaba oo city u shaqayn lahayay jabuuti ay u shaqa tagayaan taa waa dembi weeyi
وقلت سدو علم الشيء أنا هدي فهمينه ودلنيرتي دلكوي واي ماشي كتكتيد waxay man in kala imanaya inay halkoogii joogaan dhulka ay wax bartaan hadday soo fahmayaan imisay sii soconaysaa dhibtan ay sitid dul qaadanayso anu waxaa qabaa inay sitid dhib qabto weyn oo ay ku qabto horta iyada dhexdeeda isku qabto ismaaciil cumar waan sheegay waana ku celinaya anu wuxuu go'aan ku gaadhay inuu ciise isagu maamulo macal ogaas hadduu jiro isagu maamulo wixii isaga ka baxsan haddii ay diidaanna inoo la waayo go'aan buu ku gaaray taas wayna dhacday rag badan oo geesiyaala ku maqan sida uu ka mid yahay xamid axmed xamid langadhe ka mid yahay kolkaan leeyahay cali subiix baa laga diido loo celiyey laga celiyey reerkiisa inuu yimaado isaga iyo kolonelka case cilmi dhiga caleen rag tirsanaa oo dadkaa maamuli lahaa dirna markay tegeenna bacd dhowr bood waa la khaarijiyey dadkii khaarijiyeyna dib looma arkin lug inay sirdoonka jabuuti ku leen sirdoonka jabuuti wuxuu fadhiyaa hadhagaaluu fadhiyaa ayshacuu fadhiyaa ciisaha siti waxaan lagu baaqayaanu inay iyaku u gurman karaan garba ciise si salmiya ugu gurman karaan xadiidka ay fadhaystaan mudaharaadaan danaha siti hadday jabuuti ka hor jeedo sitina waa inay danaha jabuuti ka hor jeesataa wax laysku qaranay ma jirto biyaha hadhagaalo haraadame biyuu soo maraano cali sabiixii waxa laga cabaa belbela iyo jabuuti waa laga cabaa hal la furo biyaha baloonada loo furo cadowga og inuu cadow ku yahay siti waa inay cadow sitina cadow ku noqotaa ninka ay og tahay inuu cadow ku yahay ee qaybiyey ay yidhi saddex dadkanaas ka hadlaysiin waa dad saddex qaybood laga dhigay saddex qaybood waa beesha quraatee federaalka etoobiya u qaybiyey waa city wey waan ku celinayaa taana waxay u baahan tahay in si diibli ah looga fiirsado awooddii dadkaa waxba u dhimay qaybsigaas waxba u dhimay ismaaciil waa iminka dhuuyari demeed rag reer baadiya oo waxba qorin buu heshiis kula yahay oo isaga u shaqeeya oo la yidhaha dabaqoodhi inaad garanaysiin kale mooyaane raggaas baa u shaqeeya oo isaga ku xidhan isagay ku xidhan yihiin safaaradda jabuuti aadisaaba ku taale lacag ka qaataan raggaas dadka dhulkaa joogay ee ciisena waxaan ugu baaqaynaa inay raggaa horta dhulka dhigaan cudurku fardaha kaa gala haddii dameeraha laga raadiyo ma noqonayso in jabuuti lasoo eega maaha siduu sheegayo jabuuti laama dhaadheer beeleed gacmo dhaadheer bee gacmaha waa in lasoo gooyaa siti danta jabuuti haddii ay jabuuti danta siti la dagaalanto oo dadkaygii abaar kastoo ku dhacda ay xitaa kuwii siti ka yimiday war dad baa ku odhanaya haddeero cilmi allah ku xafidee ayjii lafti markay dagaalamaysay waxaa tidhi dadku way u gurmanayeen anuu calisiiran joogo askari baan ahaa dagaaladii waktigay socdeen ayjii laftu dagaalamaysay waxaan garanayaa in xerada calisabiix alleer loo riday suuliyeedna cabdiraxmaan aadan sheer baa joogay waktigaa alleer baa loo riday fermiye maanjoorkii wacays waxaa la yidhi tag oo galiilo ka soo qaada 10 nin oo dhaawac waa ciidankii qaranka ya magaaladii calisabiix xisaab u sare joogsatay oo berigii damiirku u jiray ee doofaarku soo gelin dadka ee dulligu dadka soo gelin way isku gurmadeen dadku waagaa isku gurmadeen iminka waktigan la joogo 4 sano yay dowlad deegaanka maamulka cafartu maamulayeen duuyar iyo dayn 3 magaalo waa 4 sano ahayd dabbadan maahan raggii bixiyey ee ciisaha in la qaybiyey heshiiska ku ahaa malesha sanaawi horta taariikh dheer baa inaga maqan 9-nadii markii aqliimiga la sameeyey federaalka aqliimiga ah ee etoobiya ee qoomiga ah waxaa la yidhi xuduudaha la sameeyo etoobiya dib loo eegay 100kii sano u dambeeyey sidaa ahayd waxaa la lagama baxayaan 2005 iyo xuduudaha etoobiya la go'aamiyey 2005 waa daadad muhiima wey 2005 waxaa la yidhi maanta waxaa halka la joogo
والله بكون شنتي تاريخ إثيوبيا ما هي وطن أنترسون كلام ده كان أنترسون وكون شنتي ما إلى عليه هل كان جوا على قبل أبو حدودها إثيوبيا أوكي حدودها إثيوبيا هل كان جوا على قبل أبو رجع جار كنا عفري قرصها يكون ملهين قربع عيسية عندوفية عديت اللجوجي مقعد قاربنا مقعد ومقعد عفرة مقالب بينا لا يلعب جرت لوك عفرته لوك عفرت مقالب بينا لا يلعب كنت الله أفاف كني هدي اللي بارو أفاف كوشي تجلان جوش جروب إسكو جرا مال والبا وحال لقيه يا واحد مدة عفرته إنه يقوم يدور رشاد لوك دقناديته دولك سومالي دقنتاي ريا عفري ريا سومالية وسكول الجرا يورما أقول لك وروح معنا الله ما إلا ينهضو حالي نبال ورئيسنا يجري ورعنده فم مدن دقنتين ما يقول هذا دقنين حد سيكون طاغي يعني كل أرنكاس وأرن دير dadkaas inay walaalo noqdaan oo isleeshiyaan oo Djibouti qayb ka noqoto Djibouti kama noqon karta qayb waayo Djibouti asalkeedu dawladda maanta jirtay Ismaaciil Rogaal ku yahay qaybsiga ayay ku fadhidaa qaybinta ayay ku fadhidaa dadka inay kala dishay ayay ku fadhidaa wax kale kuma fadhido dadka ay heshiiyaan iyo waxay u moodaan inay halis u tahay waxa la taasi loo diray dhowr iyo 30 qof oo amxaro la dilay laakiin afari ciise laba sano waxa kaga dhamaaday kumaan qof baa kaga dhamaaday maalin qura kama yahadan إنه يعني واحد عقلي قال لي ما أنا هذا الكل حكوا سجونية ستي أي أدوش آمن أديكو اسكت الشو دنا هاجا نيكي عدو كو أنا عدو كل نقو جبوتي بها وحال سجاشن يا سجال وح أي جبوتي قوة أم بدغلا جبوتي سوق اللي ست وسيد أحمر صورة أحمر ست وقا جالس بيسوي دي سب فرمسات waxaa la oranayaa fikirka ha laga noqdo hana lagu bilaabo jaadka suujiig ee kaartalka suujiig la dhaay ciidamada tigraga gudaha siiyo iyo biyaha iyo korontada meel walba ha lagu bilaabo waayo annaka Djibouti waxa ka leeysay city rag bay ka leeysay madaxdii bay ka leeysay haddareemo hal soo dareemo baasha hal soo dareemo waan ka baxay waad masantahay farax biyaaminta ballar nagu laamantay nagu celisay waxaan doonayaa inaan cilmi aan yar aan cilmi ugu laamo cilmi Djibouti qowmiyadiga waran qowmiyadaha ugu tukooyina jirna waa Ciise beeranada tii waxaad moodaa inay noqotay tabu amba iskuma kalsoono waa ninka imika soo sheegno nin Ciise ma odhan karaya muslim baan ahay waxaan moodaa xitaa dadkii mucaaradka ama dadkii oo maaragtay siyaasiyiinta ay ugu weynaa inay arrintaa ka gaabsanayaan Djiboutina haddii aan isku dayno oon taa ka gaabsano Djibouti waxay ku taallaa mandaqaday ku taallaa mandaqada aan joogno Somaliland baa nooga yaro kuraasada wax lagu qabtay ma amba waxa la isku fahmaa degmadiisa ninba qabiilkiisa kolka see dadka u dareensiin kari lahayd inay kelmadan fikradan fikri siyaasi ah oo dawladdu ay wadato oo Ciisaha ay dadka ay kaga ay maarata ay dadka Ciisaha ay niyadda kaga dilayso kow wata talabaad Soomaalida kale dadka kale la degan maxaad u sheegi lahayd oo ka oran lahayd waayo haddii qoomiyad maanta saa loo dhaal maarata loo beegsado oo Djibouti saa maanta Ciisaha loo beegsaday beritolna iyaga laftigooda la beegsanaya kolka iyakan maxaa u diri lahaa message waad mahadsantahay Siciidow kulay labadaada su'aalood intaan u gelin ayaan ma daragtaanay haddaad ii samahaysid kumana dheeraanayo ayaan in yaroo kale aan hadalka ka dhawaajin kulay saal halka uu sheegayo wax weyn mushkiladu intaa way ka fogtahay markuu leeyahay waa xaqiiq weyn mushkiladu intaa way ka fogtahay waxaanan ma daragtaanay jeclaan lahaa isaga iyo Faarax oo intay breevad wada karaan inay iskarbaashaan aakhirka buug noo soo qoraan rabshada isla fahmaan loo sababta waxa weey waa laba nin oo wax badan fahansan Siciidow anigu waxaan ahay nin ka soo jeeda Benin joog cadad joog iyo ma daragtaanay casad joog waa Djibouti dhexdeeda weeyaan anigu Itoobiya oo lixda kalina Itoobiya ma dego halkan xeebta Soomaaliya ma dego nin asal ka soo jeedaan ahay Benin joog cadad joog iyo casad joog odaga aan ka tafiirmay ku aftirsadana wuxuu ku aasan yahay ma daragtaan cali sabiix oo aadan baa la yiraahdaa
aadan iyo gadiid baa isku garab aasan adeer cota u garanaya kolley taariikhdaas haddana maanta ani kuraasidii aan dalka ku lahaa nin gablali ka yimid booday oo i haysto madaxa iga dul jooga hadda waa isii waxaan ahay dhulka ku dhashay joogay ma garatay waxa weeye run ahaantii waxaa jirta dhib aan annagu isku geysano ciisuhu waxa weeye taariikhda kolley aanu dad waxaan ahay dadka taariikhda dhigdhigay iminka markuu hadlayay sahal iyo cute iyo sida quraanka u dhigaysanayaa live-kan oo ku jira laakiin wax badan ma ka dhaxlayaayo rabaa inaan ka fahmo waxyaalo badan oo aan ogeyn bay ka hadlayaan ma garad waxa weeye heerkeena iyo dhibaatooyinka fara badan isku geysana ciisa keenay rabshada Ethiopia ka socota sidee ku joogsan kartaa marka la iraahdo ayaan dheedo waan ka dhawaajo waxa ay war lixda kilin marka laga reebo labada kilin ee duun yiriye deyn laga reebo afar kilin baa soo hadho halka Ethiopia oo dawladdeegaanka ku jirta Soomaalida dhalinyarteedii ma la waaye 10,000 oo dhalinyar ciisa in lagu daro new booliska Soomaalida si dhulka ugu difaacato ma la waaye ilaan ogaadeen wuxuu sameeyay 40,000 oo ciidan oo new police u qortay oo ogaadeena waa loogiyay nin ciisa kuma jiro hadday ku jiraan xabad tifaa laga helayaa ciisa aban ninka uu sareeyay ee saraakiisha saraa laakiin ciidankii caadigii kuma jiraan waxaanu ogsoonahay ciisaha Ethiopia inuu yahay 80% ciisaha caadihan ciisa marka la yiraahdo 80% Ethiopia degay 10,000 waa tira ugu yar 10,000 oo ciidan oo new police lagu daro oo la yiraahdo ma daragtaan dibta ay la qabaan new police la qabto $100 bay qaataan ogaadayba $100 buu qaataa injiil baa ku gashay dhulkiisu difaacdaa ama xarna kuma duulo botina kuma duusho tigreena kuma duulo raggan la leeyahay doon yareedeyn baa dadka difaacaya oo ma daragtaan ragaba noo soo gurmanay waragaasi ilaahay baa ogo yani gaajo darteed inay dhagaxa ka dul qaataan maarta xawayaanka ay cunaan ayay yaru jiraan marka xaqiiqan laga hadlo biyay hoos fadhiyaan oo waxa loo waayay riigan inta la geeyo laga sameeyo ceelal intaasoo urur oo ciisa la sameeyo la riigan baa la iibinayaa oo wixii halkay ku dhaceen iyo masiibadii halkay martay laba garab iyo wixii loo ururiyay intaasoo joodood baa la toshaayo in wax loo qabtay wallahi sawir walba laga soo duubay marka la duuto يعني تيفتا كوتا لا دون يريدين nin walba damiirkiisu arkaya nin walba damiirkiisu arkaya ka u dhow ee maanta ma aragtaanay dir daba joogana sida ugu qurux badan yahay u burbureen wala arkay Ciisa kala dikad baa loo sameyn kari waayay looga gurmado oo min Casbuli ilaa Dunyar isku xirna aba min dir dhaba ilaa Dunyar oo toos u baxda oo looga gurmado abarashin looga geeyo loo sameyn kari lahayd oo waxyaalaha ugu yar yar ee basiidka Ciisa intuu samaysan karay ay tahay hadii aan xaqiiqan ay jirto in gurmad uu jiro ilaan waxa la yiri xeerku iidhi iga dhaweeyeen intiiba Ciisa waa biyay ninkan dalka Djibouti haystana waa nuugu biiray oo wuxuu ugu biiray waxa weeyaan wuxuu dilay dadka ka fikiri lahaa ayuu laayay ila dad baa ka fikiri lahaa dadka leadership-kooga marka la laayo dadku way baabaan wuxuu baabiyay cid wal oo fikirayso oo leadership ayuu baabiyay min Djibouti ilaan Ciisa waxa lagu horeeyay in la laayo مسؤولينتي جيبوتي بالله halgamayaashii reer Djibouti oo dhan ayaa la ugaarsaday Allah naxariis aakhirkiina markaa waxa la soo gaaray raggii ugu dambeeyay uu Tigreegu markuu arkay isku kaadin jiray Jalafta la oreynay in la laayo maalintii Jalaf la laayay baan ugu dambeysay karaamad xaqiiqan marka laga hadlo soo gurmada ay baa la yiro way soo gurmadeen oo dagaal bay imaadeen oo aakhirkii waxa lagu jawaabo loogiye intii soo hadhay shirqool inta loo wada xidhay baa la laayay intii soo hadhay intii kale waxba aan fahansaneen direeska inta laga dhigaa socda laga marka dhibaato badan oo annako isku hayna baa jira oo Ciisu isku geystay oo insha Allah in ma aragtaan si xaqiiqana aan madaxa inta la isku galiyo de waxna waa dul waxna waa dacalo live de geesaa la isku ma galinayay si duca geeska la isku galiyo laga wada hadlo ayaa mudan su'aashaadii haddaan u soo noqdo Saciid oo in yar hadda su'aashii soo noqotay hadalkii baan dheereeyo su'aashaadii baa iga boodi su'aashaadii yar igu soo noqo waxaan su'aashaadii waxay ahayd tii dambe waxay ahayd Djibouti qowmiyada kalena way degaan waxaad moodaa imika
intan dambe uu xukunka in cumar qabtay inaa ciisaha iyo dhaqankiisii la beegsado oo kelmadda ciisaha lala xishoodoba taasi صح waxaan ku lahaa ummadaha kale ee nala degan iyaka haddii maanta ciisaha sidaa loo galo britolna iyakay noqon maxaad iyaka u diraysaa fariin waxa weeyaan horta dhibta anaka iyakuna lama qabaan dadka waa dad is organizeeyey waa dad dhibta anaga nahaysata inay gaadhayso u malay sababta waa dad run ahaantii dhaqankoogii iyo gurmadkoogii intaba haysta waxaan kuu sheegay meel yaroo kooban baan siciidoo arrinkaa kaaga taaban walaalaheyna qoomiyadda walaalaheen ee ilaahay iskee baday ee meel walba nala degan ee canfarta la yidhaahdo waxay leeyihiin urur dhalinyareed oo maad aragtaanay ka Ethiopia jooga ka Eritrea jooga iyo ka Djibouti joogaba ay isku yimaadaan oo Samaara meesha la yiraahdo ku shiraan waxay qabsadaan waxa la yiraahdo forum canfar waa geesinimo waa raganimo waa dad tashaday waxa isku yimaada ninka Ethiopia jooga ninka Eritrea jooga iyo ninka Djibouti jooga Samaara maanta waxay u dhisan tahay Djibouti ka qurux badan bil xaqiiqa ma kasho example waxa kuugu filan airport-kayga markii laga dejinayay Allah ha u naxariistee suldaankoogii ugu weynaa markuu dhintay airport-kooga quraata waad arkaysa anfari waa airpaygo saal hadeer hadal buu yiri war meel dhisan deegaanada aan deganahay ma jirto meel aan Djibouti ahayn horta xeebta Soomaaliya iska badaa waa meel lagu talagalay in laga dhigo maad aragtaan abuuda loo ekeysiyay intii reereed deganaana waa la soo eriyado waxa la keenay Djibouti iska soo dagaaligay ka soo kac afar yaro reabtiga iyo ayaa ku hadhay dhulkaasoo iyagu maad aragtaanay wali deegaanka ka soo guur gaajalays marka waxa weeyaan waxa taa u dhacaysa Siciidow inta waxa la diidan yahay aad isku timaadi waxa la diidan in historigaaga fahanti waxa la rag baa cadow kugu ah ilaa aan ummadda iska qabanno oon basaaskiisa iska qabanno oon xeerkayga fanile xeerkaygu ku qoray wax walba war wuxuu ku yiri xeerku ilma habar masiibalay baa jirta sagaal buu noo tiriyay sagaalkii baa Ciise dhexbooday lagu yiri geedna kuma fariisto xeerna kuma matalo sagaalkii markaan anagu iska qaban weynay Ismaaciil markale ilma habar masiibalay ku mid yahay marka Siciido waa taas weeyaan anagu dib aan isku soo noqono ee dhalinyarta aan la hadlayno qudadiisa wallahi dad baan garanayn anigu Ciise leeyga ma shakilay waan baan dad baan garanayn buu waxaan ka sheekaynayo taariikhda laga sheekaynayo hadeerna hadal baan idho dadkeenu waa buusha loogay hadal baan isku tabinaa taariikhe hanno loo qoro sababtaas si ummaduna u fahanto in taariikhaha la qoro ما دركتاني دب وحي أنا صامر إيفنمويدي أنا صامر وهو بين القرى المهم أجاده دبت وصامر إيه فرحت وصامر إيه تاريخ ليس تابع ما دركتاني دتك كبر أروج يعني اللي نقف مركو فهم تاريخ ليسيو جريتان كيسو وقرنا يوقف نول وقرنا يحركوا قصة ده وحور وقرنا ربيتان كيس فانسن مركا حركة أبان قصة جنانة عرضه. thank you سهل سواشا عدنا كوسة ورقي واحد تري waxaan ka hayaa ninkii qofkan dhibaatada ku haya aqalka qaarada waxaan ku dhibay inaad iska qaado waxaan u fahmay sida maartay cabashadan say soo tilmaameen waa taliska Cumar kow tuka ka dhawaajisay waxa tiri xeerkii ogaasku ha naga dhaxeeyo waxaan jecelahay sahal seed ummadda Djibouti qaayitaanka ninka la iska qaadayo taa waa loo itaalaayahay وتادي كل ما يدين نقول لكن واحد كويدين لبنا كرسة مد رجبوتي وقد عدين حركة يوجاسك إنه كده حياة أدران ويشان كرجع كون ما أنت أدرك يس وضع عندك كان أجرملا سوى عدين لا تل سالم مقلسة ألو سال سال لبها يسال ملينا سال لك كويا لو سال ملا سال ملا سال يوم مغليو اوكي وحن سال ملا مغليسا مي مغليسينكو
anagoo kuma annagu si fiican baan kuu Hello? maqlaynay oo xalkiisa malaysaa Okay. xaggiisa Okay, hadda badwaan cilad baa haysaan filayaa inanka technician hadduu sahal la hadli karayo deja waxaa de su'aalihii ugu dambeysay yaa xabad su'aalaha ugu dambeysay yaa noo hadhahayd haa ka ninka soco ka technician soco hadduuna ka soco maqlayo alla hadlo kolkaa waan soo xidhay dacwad ayaan soo xidhayaa waxaan faarax baan usoo laamay su-aashaa sahal baan doonayey way iga seegtay waan ismaqli weynay faarax jabuuti waxa horta su-aasha ugu dambeysa waxay ahayd dagaal baa ka curtay xalay dagaal baa xalay ka curtay oo Ethiopia oo u dhaxeeya Tigreegii iyo dowladda Ethiopia Tigreeguna saan ognahay dhukan wuxuu ku leeyahay saameyn buu iyuu ku leeyahay oo gacanta saddexaad ee la sheegay ee isku diraysa labadan qabiil ee waalaha ee cafarta ciisaha oo objectifiye isagu iyuu gaara iyuu leeyahay cafartana saa uu ku qanciyey dagaalkan dhacay maxaa jabuuti ahaan iyo reer city ahaanba arrimuhu say isku bedeli karaan maxaan la soo darsi karaa anu caawa waxaan ahay afhayeenka city baan ahay city yaan afhayeen ahay caawa dagaalkaasi maasha allah dagaalkaasi waxa weeyin horta dagaalka Ethiopia ka dhici geeska Afrika saameyn buu ku yeelan doonaa kulley waddan 100 malyan oo qof ah nimanka Tigreeguna dagaalkana dowladda shisheeyaa soo gali doona sida la sheegayo Eritrea ka mid tahay oo la socota Abiy Ahmed la socota Suudaan xad ka xidhatay inuu Cumar Geelada Tigreegu ku xirnaa isagu kulley siyaasadda qaldan buu raacaa weligiiba siyaasadda qaldan buu raacaa Tigreegu raacsanaa Tigreegida haddii la weeraro annaka inkastoon ku faraxsanayn laakiin cadowgaaga ilaahay cadow ku bixiyaa lagu ducaystaa Tigreeg iyo Cumar Geele Tigreeg iyo Ismaaciil Cumar siyaasad bay ka lahayn dan qowmiyadda cafarta wax dhib weyni nama dhaxayn karto waan wada hadli karno cafartu weligood iyo ciisuhu way heshiin jireen way wada hadli jireen iyadoo dowladda ay ku dhex jirin nidaamyo cajiib ayay ku noolaan jireen laakiin dagaalka nimanka ku siyaasadaysan waxaa isdiriraya cafar iyo ciise maahin waa kilil state ah oo awooddii state leh iyo jufooyin ciisaa weyn taa horta in la ogaado weyn maaha ciise waxa duuyari diimeedka joogi maaha ciise waa dhowr jufo magacdooda aan tiri karno shantaa farooda aan dhaafin iyo Tigre iyo Ismaaciil Cumar baa isku haysay mandaqada Ismaaciil Cumar kolka dagaalka ka socday Ethiopia saameyn weyn buu yeelan doonaa laakiin koleraaga iyo miyaad kala dooran kartaa shubankii furuq haddaa kala duulo wala ilaahay ha isku diraan odhan lahaa ilaahay ha isku diro inuu Cumar Geelada halku mari doono kole busbus buu odhan doonaa wuxuu haddana Isaayas buu daba geli doonaa laakiin Isaayas kama aqbalayo waa la ogyahay inay jarnaaladii Tigreeg baadeen jarnaaladii Tigreeg inay Djibouti baadeen oo maalkii Tigreeg mar hore Djibouti lala soo galay dariiqan ka baxa Djibouti iyo bakii ka baxana Tigreeg waa laga xidhay idasha uu weecanay uu xidhan yahay sektarkaas uu ku xidhan yahay kolka dadkeena waxa lagu duceynaynaa inuu ilaahay nabad siiyo qowmiyadda cafartana iyo dadkeenana ay waa dad muslima wala shahaadanaya ninka ciise ninka cafreed ma kala garati ilaahay hadlaan galbeedka jooga ma kala garanayso way isku eegyihiin weylka qorayin dharka si qoray xuleeyin wax u dhaxeeya afka markuu hadlo ba kala garanaysa kolka anu waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aasha Saciidow Tigre nimankaas waa niman shar badan laga dhigo hubka laga dhigo waa ka baxay علمي waa halkaa uu adeer cunta sheegayo waxa weeyaan kolley federaalka ayaantii duweyd uu soo weeraray waxaan anu warbixin aan ku helay inuu federaal ahayn laakiin ciidan federaalka ka mid a oo dowlad deegaanka Tigreegu uu maamulkiisa hayay inuu soo weeraray dhun yireedeyn baan warbixin aan ku hayaa waxa weeyaan Tigreeguna waa fidnada
geeskan iyo madartani koronada afriga la yiraahdo waa fidnada dhex joogta weeyaan kullay abide isaga u taala sidoo daraga qoriga uga dhigi lahaa oramaba sidoo u qaraacayo madartani buuraheega uu la dhacayo hub waa ka madartani markii dib ka dhigay tigray hadii hubka laga dhigo oo federalismiga la aqbalsiiyo Ethiopiana way degaysaa dhunyirigeedina way xoroobaysaa marka in laga dhigo annagu waan ogolna waa sida adeero cutay cadowgaaga waxa lagu duceystaa ilaahu cadow kale ku saar marka anagu sida taaban aaminsanay qaacidadaas insha Allah thank you waayahay ma santiin su'aashii ugu dambeysayaan siin maxaad faarax cutay maxaad u jeedin maartay qoomiyadda Cafarta iyo kuwa maartay ishaya maxaad khaasatan qoomiyadda Cafarta adu oran lahayd qoomiyadda Cafarta balaaran tahay oo Djibouti way degaan oo kuwaas inaan taliska Cumar Geele iska wada qaadno baan heshiis ku nahay oo Djibouti kuwaas waxba inaga dhaxay laakiin qoomiyad kililka Cafarta iyo dadka Ciisaha ee dhulka degan Cafarta iyo Ciisaha dhulka degan ee biyir iyo deyn degan nabadgelyadu inta sheegano Cafar inka badan baa ka dhimatay 500 baa la ku sheeganaa 500 inka badan baa ka dhimatay laga yaabaa in badanna way dhaawacantay in badanna way gablantay wadada musnina nabadgelyada hal baaro kulli hadii gacan saddexaad oo ku dhex jirtay dadka alla way heshiinayaan nabad baan ugu baaqaynaa dadkaas inay nabadgelyo ay helaan Cafarta Ciisu waxay degan Itoobiya dhulka ugu muhiimsan bay degan yihiin oo ugu istaraatiijisan haddana badanka waa dadka ugu faqiirsan oo ka faa'iideysan dhaqaalihii kor u kacay dalka Itoobiya kama faa'iideysan labadaasiba waayo labaduba culaad bay ku jiraan labadaba dan baa laga leeyahay oo hadii heshiiyaan dadanoogii garan lahaayeen oo heshiiska dad baa diidan marka waxaan oran lahaa labadaasi waa inay heshiiyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waan ka baxay merci cilmi sidoo kale adna ku soo tabiyay maxaad baaq u diraysaa Cafarta waxa weeyaan kulli horta nabadii way caana macaan tahay nabadna wax ma daragtaan wax lagu doorsanayo kala ma jirto Cafar iyo Ciisana waa dad islaama waa dad ma daragtaan waan iraahdaa kulmadaasu Ilaahay baa isbaday maalintu Ilaahay dukan la laabto oo bay ma daragtaan ay kala guurayaan waxa weyn inta uu Ilaahay diyaarladaas uu ma daragtaan sideeda uu deynayo way garab deganaanayaan meel lama kala tagayaan marka waxa uu lahaa in ma daragtaan nabadda lagu faraadkaado ragga walaalaha ay ma daragtaan Cafareed historianka u badan ma daragtaan Beeli waxa la yiraahday sameeyaan waxay sameeyaan inay yiraahdaan gadacameytu dhulka had ana ka lahayn jirnay istuar caynkaas dhalinyartii markaad ma daragtaan Beeli iyo qudad dadkaad gelisid ilmihii uu ku soo koraya dhibaatada maanta Cafar iyo Ciise haysta waa taa weeyaan laakiin anu waxaan u sheegayaa dhulkan waa dhul naga weyn nagana ballaaran dhul barwaaqo aan wada fadhiidin dhulkan maanta Cafarta dhul wuxuu ka haystaa Tigray oo aad cadadkayga aad qiyaasi karin oo barwaaqo ka haysta weeyaan dhulka waa naga weeyahay yan anaka la isku keen mashquulin oo anaka la isku keen jabinin dhulku waa naga badan yahay barwaaqadiisu waa naga badan tahay Ethiopiana dhuunteeda fadhina وإننا أقولنا إن أننا نهي أود إثيوبيا وعفر يا عيسى وأود إثيوبيا وي marka nin walba in ma daragtaan nabadiisa ku faraad kaado walaalnimada iyo ma daragtaan jiiraanka jaarnimadana la dhowro oo hadii ay wax jiraan halka qori la isugu jawaabayo la iraahdo war kursi nafrisiye halka wada doon wixii jira kursi baan ku wada doodayna halka aan ku leynayno caruurtayada ay hooyo ku gablamayso oo aaba ilmihiisa ku waayay kursi aan ku wada doonno oo doodayada wixii ka soo baxan ku kala dhaqaaqayna haddana annagu ma daragtaan isfahmayno dawladaha ana kala dhex galaan ilaa dawlad baa u dhaxeeyaan dhulkan lagu doodayo mar baa la yiri referendum ka sameeyo afti laga sameeyo kun jeer baa laga sameeyay in madax la isku jabiyay ma xaqiiqda in la dul tago weeyaan in la yiraahdo war nabad wax dhaanta ma arkeen markaan waxaan ugu baaqayaa horta intii dhimatay labada dhinacba Allah qabuuroogaan waxa weeyaan ninka islaameen islaano u soo qaato qorida Ilaahay quraankiisa oo ku qoraday marka insha Allah iyaka Ilaahay qabuurooga ha nuuriyo
cid kaloo maad aragtaanay naga dhimatana labada dhinacna midna ma rabno laakiin aqliga saliimka u soo noqdo nabadana loo soo noqdo insha Allah marka inta waan kaga bixi insha Allah ونتا قف بقى صوغ مثال بقى قف كاس مثال وانيجي ها بالكي ما قبا وحي صدرو بالكي وسعربا ها اوكي ها وسو لا وان سو قبل لكن بعد لبس فلود بقى كانت لبس فلودنا كو هيا waan ku wicin سال سواش هذا ما قنان ku weydiiyay waxay ahayd waxaa tiri qofka qaaduu qarrada qalkaaga qof dhibayo inaad iska qaado qofka iyo ay weeyaan baa tirtaa waan kula garano waa dawladdeena Cumar baan u garayaan u fahmay anigu talabaadna waxaa tiri ogaaska iyo xeerku iyo ciisanimadu ha ka sareysaa tiri siyaasadda inaan saa u fahmaan moodayay waxaan doonayaa tan dee in Cumar ha iska qaadno iyo rejiimkan الله قشها إنه دبته هذو كان أسكت قادنا لذا تاي تال كذا إلى أن سيوات كرلنا وانقسم منها لكن وحن جعله عيسى ما تجبوتي أدرك وعد جيس وعد سو كسوعي قفك وله هذا ديجا كوسو جرمدي وحبا وقبل كرلا سيد وقدر دعين سهلو نارت بقرك يحرك إنه عيسى المدو إنه كسر السياسة سيد فاسين عيسى جبوتي صنع بقى بعد هذا الكلام أضالي وعد قراول كاقل يهوريا الله نسك قانو ياي نودنا مركات دولة إسماعيل بعد وجدابات هذه جاي يداركم مورن تاس وسوف فهمي وسوف فهم هداد أنا دولة أنا أقول كما حلا إسماعيل دولة كسته مرايك كروش واحد دوني عن نقطة مدح بناني إن أقول يلتو وحاجة أين السياسة كحدنين إك وين مثل إسكراعة وحين بابي إن السياسة هاي إسماعيل هورتي سياسة مجرتي قبل نودي ما كان قال إن محن قبل عمري إن قبيلة السوق اللي السياسة أو قلق لو كلا حولها لو كلا قيب سما جيبوتي سوما يهين ما كان إسماعيل بجوي ما إسماعيل مجوي أنا أقول aragtidaydu waxay tahay waxa weeye war laba mid kala dooro inaad ahaato nin siyaasad lugta uga xidhan iyo nin madax bannaan maxay ku kala duwan yihiin ninka siyaasad madaxa lugaha uga xidhan waxa weeye waa nin aaminsan siyaasaddii qoloqolay iyay noo kala qaybisay maturity eg inaku maan gaadhin weliba innaka dadkeenna maanu gaadhin maturité politique ou regal kurado wayelnimo siyaasadeed eg maanta aniga adiga oo midiyo isku sidana haddaan isku nimaadno wax dana midiyaha weynaan dhignaa garbaciisa markay dhacday wixii ugu horreyseen waxa weeyaan war waxa kaleeto dhan ba ay yaalaan ragga hal la gaadho siyaasadii khaanad baan iskaga xidhay waayo iyaa ka weyn siyaasadii xeerkii baa ka weyn xeerkii muxuu yidhi hal la gurmadkii baan ku jiraa marka qofku hadduu sidaa u fikiro aqligiisa uu ka baxayaa siyaasaddii war maxayna kala qaybiyey maxayna ina mideeya weeyaan jawaabtu maxayna kala qaybiyey maxayna ina mideeya su'aalahana la isweydiin 15 sanadood sideen bilaa uga soo noqonay marka ma waxay oranaysaa qof kale taa noo diiday inaan noqono annaka ka masuulo inaad tiraad sidee ku dhacday afar jeeblayaasha garka xinaha soo marsanaya ee reer magacood wax ku cunaya ee hunguri reerka u kala qaadqaadaya haddaa meel laga joogsan waayo oo oran waayo wariyay naqlata siyaasadda halkee loo socdaa hadda ina mire nin geesiya maaha war ina mire hadduu daawanayo videogaas ina mire waa gacan baa inaad ku taagay nin ragaa tahay 2 sanadood buu ku jiray jeel una shaqo ku lahayn inuu galo wala aamusnaa inaku wala aamusay etiket qabiilad baa loo raadiyay maanta nin ciisa hadduu wax fiican qabto lama raadiyo waxa uu qabtay qoladu yahay baa la raadiyaa we have a problem dhibaato ayna haysata dhibaatadeennuna maaha Djibouti waa innaka wana ruudada la qorunta la isku sheega
haddaad kolba geed la fuushid war jabuuti waa ku dhannahay hadday jabuuti u tahay siyaasaddu etoobiya ninkii etoobiya kole jabuuti bay baabiisa kii soomaaliya kole jabuuti ay baabiisa ina baasha laga kaca in badan baan farta isku fiiqfiiqnay ee waynaan dhahnaa waryaadeen hee dhibaatadeenu ma ka weyn tahay c'est plus grave que ça way ka weyn tahay jabuuti horteed bay jirtay jabuuti laakiin maanta mid buu ilaahay keenay ilaahay wuxuu keenay garbaciise ayaan ku midownay odayaal baadiyo joogo oo xeebta waa la ii soo sheegay oo video soo duubay oo geesinimo ka gaadhay halkaas odayaashii baadiyaha joogay ee magaalooyinka joogay geesinimo ka gaadheen jabuuti waxa ka socday ma garanayno ma oran karno reer jabuuti ma nin baayac mushtara iyo nin siyaasiya mise shicib weynaha jabuuti ee weliba ciisaha anu ma arkayo walaalkayow nin ay damqayn waxaan ay damqaya amba jabuuti aan ka imide anu manacir ka soo dhaadhacay anoo weliba nicasa jooga faut arrêter de blâmer les autres fartu halkan ku fiiqayna ma fartu waa innakii baa ceeb isla soo fadhiisanay baraha bulshadoo reer isku caayayna siyaasaddu goormee reer gashay oo reer isku qaybinay waa ka baxda halkayga سهل سؤال شيء أنا أقول عشان دونيا تن أنو إن عمر يدود كقايتان عيدو ثان نقطة كانك مادي لكن سيد دتك لو فهسية إني سياسة إنه طل ماذا يحرك يجاسك وكسر رئيس سياسة سيد دتك لو فهسية ما كلاد ها ده واتانكسو هالله سياسة هذا بابا وتفرت هذا ما بابا إسا مجرانين هبل هذا EMB ku abtirsada alafaaga ma jiro hebel MRD mujra ma jiro war waxan waa siyaasaddu waxa jirta nin aad is haysan aad fikrad aad ku kala duwantiin gidaarkan uu cas yahay annagu madow yahay laakiin labadiinoo isku haysta hooyadiin haddii halkaa uu ku kubsanayo amba walaasha halkaa nin ku kubsanayo ma waxaad oranaysaa war walaashay kuwaaba qabay maxay iga galay hal la kubsado miyaad oranaysaa waa doqonnimada meesha taala مسؤولية ماشى إن تعالى وحوي وكجقبو إن محيا هذي إن كجقبو إن محيا هذي إن رجع جان مقرطة الله هذا كلمة الجها مقرطة ما هو عيوي يعني وجان مقرطة أو جان كوحلو يري وملح ذا مركز ملح ذا كسرة جيبوتي بوربا يكون يشع مركز ساسا جان مقرطة لو يري جها مقرطة وعي لود عايدين الرج جسيا أو ay ka dhasheen rag wadanka u soo dagaalamay kowdhe jaan magaratada marka laga bilaabo dhulkooga ee bininjoog sida loo maro casajoog la maro ee cadaadjoog la maro afartaa rag ee meesha degani taariikhday soo mareen iyo gobonimada waxay ka soo qaateen haddii maanta hurdada laga soo kaco la yiraahdo sidanay dadkii ku dambeeyeen way yaabayaan marka xurriyadda loo cararayay waxa loo cararayay gaal in la iska kiciyo لو ما عررين كان رير هبلة يكنا هالكن كيبدي يكنا هالكنا حدود كنا قال با كاني إن إسبدل كان ماشان كده سعودنا وحا كاني سياسة وقال كاني إنكو تفيرتينو مركو قفكو أبترشدو خير بايقاشا خير كنا مسؤوليات بوكوليه جار كاغا إسلام كمسؤوليات بوكوليه ودانيغا كقرب داغا مسؤوليات بوكوليه وهنا wuxuu ku kala cadaadaan ninka saaxiibkay waa saaxiibkay hadduu maanta wax qabo waan la caawin garab joogsanaya diinta islaamka aad wixii adiga wixii dadkaaga ana mas'uuliyad baa ka saaran wixii xeerkaaga mas'uuliyad baa ka saaran 15 sanadood aan bilaa ogaaska hayn ma waxaan ku cambaaraynaa marka dawlad baa misaanaka wax naga siiyeen min hadduu Soomaaliya ku gaajoodo ma waxaan ku cambaaraynaa dawlad mise waynaka haddii halka cundu faraq lagu laayay ma dawlad baan ku cambaaraynaa mise waynaka kaarkan Ethiopia u yaallay la samaystay shiniile iyo waxyaalahan la samaystay goortii la samaystay halkuu ciisu ku maqnaa waa si loo baabiyo 12 dixood magacooga waxaad weydiisaa ninka Ethiopia ka yimid walaalkay ee Djibouti ku nool haddaad ku tiraado war dixdeed ka timid oo ku xanaaqaya
adigana wuxuu kugu yeerayaa jahma garato iyo xasajoog warma fiyoonahayo warma waalana isuhu mudoohanya inuu doohanya malanaya ciisaan imika ciise doohan inuu yahay on pose pas les vraies questions su'aalaha saxda isma weydiino marka inaga khaldan hadalkana waan ka baxay سال فكرة وان قدرنا وقتنا يعني معلنا لكن أنا لفتي فكرة قبت أذكر ما قبو فكرة أي قبان علمي يو فارح بأدو قبا وايو وحن جعلها ماشي وحن مات كل هذا نقطة الدولة عيسى النبي لقوا أمني لسير عيد كل عيسى صار قادوا جيبوتي أرمها جيبوتي إلى هاجن أرنت ستة أنا كوبا لنقاضي ما صار ما هاجدونتو تا سهل وحبينا هجب بنماها فكرة وحي لكن قدرنا فكرة هذا سؤال شيء قدام بيسان كل شيء واحد يسأل قيمة عفرتها محاد والله إنها محاد هذا الأدرس مسج nin kastaba qori uu haystaa nin kastaba qori uu haystaa nin kastaba xiniinyo ku yaalin haddaad nin dagaal ula timaado dagaal buu kula iman waa ragga cafartaan la hadlayaa waxyaalo badan oo waxaan maqlaayay ay dhalinyarada weliba qaar horta waxay nagu jira qaar badan oo munaafiqo oo magac lahayn oo taswiir u olin facebooka oo kolba reer caaya kol cafar caaya kol ciisaaya waxay la garanayn oo la daba dhaqaaqo ragna waxay wataan ajanda gooniya halka iga dhig kuwaas xaqiiqdii haddaan u soo noqdo ragga city joogay cafartu waxay ku cambaaranaysaa dawladda Djibouti inay siiso hub oo ay cafarta ku laatirado qaar badan oo ciisaana waxa ka dhaadhacsan inay dawladda Djibouti ay cafarta siiso hub ay ciisaha laatirado oo niman buu tuhmaya waxaan joognaa 2020 nin kastaba cell phone buu haystaayo uu soo taswiiraa wax cadeynana ma hayno oo nidhaano waxana cad oo yaala ama videogana yaala amba kaarkan baa laga soo saaray askartii Djibouti amba telefoon kana qabano ninkan dhitimeedka ka soo saarno telefoon Djibouti ku jira raga ku jirana waa kuwan ma hayno marka intoon tuumka iska dhaafno waxa inoo taala wixii wax garada aqli leh og nabadgeliyo waxaad ku keeni weydo dagaal kuma keenaysid reer baa reer dhameeyana dawaadiga arkay Rwanda uu tuuga dhameyn lahaa Tutsiga oo dawladii haysto oo diyaarada haysto wax kasta haysto haduu dhameyn karay ma aaminsan reer baa reer dhameyn kara Ilaahay baa wax dhameeya dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan dagaalka hadii uu sii fado afarna faa'iido ugu jiro annakana faa'iido ugu jiro waayo Djibouti soo galay hadii Djibouti burburtana ani personnellement shakhsi ahaanteeda ama qof uma hadlaayo faa'iido ugu jirta hadii burburto Ethiopia boorka bay eeganaysaa orod bay ku soo galay Eritrea noorkay ka soo galay frontierki kolley buu iska furan yahay nin kastaba meel buu ka soo galay ma isku toli karnaa waa maya maxaa markaa faa'iido noogu jirtaa inaan nabadda ka shaqeyno inaan eegno the big picture waxa la yiraahdo waxaan ka weyn waa inaan eegnaa kuwaas aan u heshiisiin lahayn ninka dagaal u diyaara ee dagaal baan soo qaadayaana ee city baan dagaal ugu soo noqonayaana ninkaad ku soo socoto waa nin saado kale to laba gacmo leh ninka dagaal u kacay isna halka kale u socdaana waa nin sidaado laba gacmood leh adduunyada waqtigan la joogaana waa waqtigii miis la fariisanayay waqtigii qori wax lagu kala qaadanayay ma waayo reerkan waxaan wada deganahay oo isgarab degnaa ogaas xasan waqtigiisii iyo saddexdii ogaas kale ka sii horeysay oo isma garab deganin waa hore buuraha ka saari lahayd ka saari weligeenba isku garab deganin ilaa intii meesha la abuuray baa isku deganin soo isma garab deganin marka iskeen baday marka waxa weeye anna waa ku dan anna waa ii dan inaan ku xalayno nabad laakiin waan imanno waan ku qasbi oo waan kulayn oo qasaban meel kaaga raray wax soconaysa ma wax la iska yeelayana ma
ما شاء الله. انت هذا كنت أقول لك. waad mahadsantihiin waxaan ku mahadsantihiin intaad waqtigiinaana siisaan barnaamijkeena sidaa baan maaragtay kusoo gabagabeynaynaa insha allah barnaamij noocan oo kale dood caynkan oo kale inaan kusoo laabano oon ka gungaadhno oo fikradaha isdaafsanno waa wax meesha taalla insha allah wixii naga qaldan annaku inaan isku sheegnana waa wax maaragtay meesha taalla sidaa maaragtay waxaan leeyahay insha allah isaarag dambe oo xiise leh السلام عليكم. waan salaamaya assalaamu calaykum والله waraxmat ullahi سنتين. عليكم wabarakaatu السلام ورحمة الله وبركاته وانكو سلام آدي وانكو آدي سلام من إنه صاحب تكون مهتسن تهي برنامج أدي كستو أدي كبحينا من واحد هذا وحي دنتي قربعيسا كو دنتي الله نحرستو مسلمها amiin amiin waxa la wixii dawladda aan calankeeda ku hoos harsanana wixii u soo dagaalamayna naxariis janna Allah siiyo kuwii nool Allah آمين caafimaad siiyo amiin آمين. آمين آمين إن شاء الله آمين سلام الله إن شاء الله